sidee baad uga heshay qaybtii koowaad ee kitaabka boqorka? maxaa ka baratay axdigii hore? axdiga macnihiisu waa heshiis ama wacad. ka hor haddaba intaannu injiilku soo daahirin ayaa ilaah waxa uu leeyahay, bal eega maalmihii way imanayaan oo anigu axdi cusub baan la dhigan doonaa. axdigii koowaad ayaa rabbigu waxa uu la galay dadkiisa oo waxa uu siiyey sharciyo badan si markaa ay u arkaan dembiyadooda iyo quduusnimadiisa. waxa uu siiyey tusaalooyin iyo waxiyo ku saabsan badbaadiyaha imanaya. axdigii hore ayaa nebiyadu waxa ay inoogu soo sheegeen in boqorka masiixa ahi uu iman doono. laakiinse axdigan cusub ayaannu ka dhex arkaynaa in boqorkii masiixa ahaa uu yimid. axdiga cusub waxaa ku jira injiil. luqadda carabiga sidoo kale waxaa la yidhaahdaa injiil. ereyga macnihiisa waxaa weeye warka wanaagsan. injiilku waxa uu ka bilaabanayaa ama uu ku bilaabanayaa erayadan: kan waa kitaabkii abtirsanyada ciise masiix, ina daa'uud, ina ibraahim. ibraahim waxa uu dhalay isxaaq, isxaaqna waxa uu dhalay yacquub. haddaba magacba magac ayaa qorninku waxa uu isdaba dhigayaa magacyada ilaa ibraahim ilaa ciise. ilaah wuu dhowri doonaa ballankiisii ahaa inuu barakadayn doono dadka u odhan isagu oo badbaadiyaha ka soo diri doona faracii ibraahim. axdiga cusub waxaa ku jira haddaba 4 kitaab oo injiila. muxuu u yahay 4? muxuu u ahaan waayey hal keliya? axdigii hore ayaa ilaah waxa uu u sheegay muuse, wax kastaba ha lagu adkeeyo afka 2 markhaati ama 3 markhaati. si loo xaqiijiyo haddaba arrinkaa iyo farriintaas ayaa ilaah waxa uu doortay 2 ama 3 inaanay noqon, laakiin 4 qof inay qoraan warbixinno kale oo kala duwan oo ku saabsan nolosha masiixa. magacyadoodu waa matayos, markos, lukos iyo yoxana. waa sida 4 wariyo soo tabinaya hal dhacdo. mid kastaa waxa uu sheegayaa qisa isku mida laakiin leh 4 aragti oo kala duwan. axdiga cusub waxa uu ka kooban yahay 27 kitaab. falimaha rasuullada waxaa qoray lukos. waxa ay noo sheegayaan wixii dhacay markii masiixu uu dhammeeyey ergadiisii. ilaah waxa uu kiciyey ruuxii bawlos oo hore dembiilo u ahaa, iyo yacquub iyo yuudas oo xagga hooyada ay walaalo ka ahaayeen ciise, iyo butros iyo yoxana oo iyagu ahaa kalluumaysato, kuwaasoo ay ahayd inay qoraan inta kariba kitaabka axdiga cusub. kitaab waliba waxa uu sii caddaynayaa boqorka iyo qorshihiisa ku saabsan kuwa isaga jecel. waxaa haddaba halkan ka bilaabanaya inta hartay qisada. laakiin yuu ahaan doonaa oo sidee buu ku iman doonaa dunida? wakhtigii herodos haddaba uu ahaa boqorkii yuhuudiya, ilaah baa malaa'ig jibriil u soo diray magaalada galilii oo naasareed la odhan jiray, ilaa gabadh bikrad ah oo u doonanayd nin la odhan jiray yuusuf oo dhashii daa'uud ahaa. gabadhana waxaa la odhan jiray maryan. malaa'igtii baa ku tiri, habaqin maryanay, waayo nimco baad xagga ilaah ka heshay. baleeg waad uuraysan doontaayoo wiil baad dhali doontaa oo magaciisana waxaad u bixin doontaa ciise. nin weyn buu ahaan doonaa, waxaana loogu yeeri doonaa wiilka kan ugu sarreeya. rabbiga ilaaha ahuna waxa uu siin doonaa carshigii awogii daa'uud. weligiiba wuxuu ahaan doonaa boqor, boqornimadiisuna ma idlaan doonto. kolkaasaa maryam waxa ay malaa'igtii ku tiri, sidee baa waxaanu ku noqon karaan? anigu nina garan maayo. malaa'igtii waa u jawaabtay oo ku tiri, ruuxa quduuska ayaa kugu soo degi doona oo xooggii kan ugu sarreeya ayaa hoosiis ku noqon doona. sidaas darteed kan quduuska oo kaa dhalan doona waxaa loogu yeeri doonaa wiilka ilaah. muxuu jibriil ugu yeeray ciise wiilkii ilaah? marka dhacdadan la eego ayaa dadka qaarkii waxa ay la tahay sida in ilaah wiil u dhalay sida dadka oo kale. laakiin sidaasi maaha. alaaba dadku waxa ay kugu yeerayaan haddii aad ka timid qaaradda afrika, wiilkii afrika. taa miyaa haddaba loo qaadanayaa in afrika ay wiil dhashay? maya, macnaha waxaa laga wadaa in aad ka timid afrika.
masiixa waxaa loogu yeeray wiilka ilaah waayo waxa uu ka yimid xagga ilaah. wuxuu soo dhex galay qoyskii dembigu burburiyey ee aadam, laakiin asal ahaan isagu kamaanu imaanin aadan, laakiinse isagu waa ereyga ruuxa iyo wiilka ilaah. bilowgii waxaa jiray ereyga, ereyguna wuxuu la jiray ilaah, ereyguna wuxuu ahaa ilaah. isagu ilaah buu la jiray bilowgii. wax waliba waxaa laga sameeyey xaggiisa, oo wixii la sameeyey lama samayn isaga la'aantiis. ereyguna jir buu noqday oo wayna dhex joogay, oo waxaannu aragnay ammaantiisii, taasoo ahayd ammaantii u ekayd tan wiilka keliya ee aabbaha. ma xusuusanaysaa haddaba ballankii ilaah u qaaday maalintii aadan markii uu cunay mirtii laga mamnuucay? ilaah waxa uu yidhi, faraca naagta ayaa waxa uu burburin doonaa madaxa abeesada. haddaba faracaas la ballan qaaday ayaa iminka waxa uu ku jiraa uurka gabadhan bikradda ah. haddaba sida uu ku burburin doono madaxa abeesada waa wax la arki doono. maryam waxa ay u doonanayd yuusuf inuu guursado. isaga waxa uu ahaa nijaar deggan naasaret. maryan iyo yuusuf labadooduba waxa ay ahaayeen dad yuhuuda, waxaana ay ka soo jeedeen isirkooda ibraahim ilaa daa'uud. haddaanay rooma halkaa joogin, yuusuf waxa uu ahaan lahaa amiirka dhaxalka iska leh. waxaa magaalada haystay reer rooma, oo qof kasta oo yuhuudiya oo laga shakeena waa la deldeli jiray. cashuurqaadayaasha waxa ay dhacayeen dadka, noloshuna waxay ahayd mid aad u qaraar. laakiin yuusuf wuu iska faraxsanaa. goordhow waxa uu aroosi lahaa maryama. si adag buu haddaba u shaqeeyey sidii uu markaa u diyaargarayn lahaa meesha ay ku noolaan lahaayeen markii ay isguursadaan dabadeed. maalin maalmaha ka mid a waxa uu ogaaday warka nixiyey. maryam waxa ay yeelatay uur. sidee bay kula tahay inuu yuusuf dareemay markii uu maqlay in ay uur leedahay? waxay u muuqataa in maryan aanay isaga daacad u ahayn. yuusuf waa qalbi jabay, laakiin waxa uu doonayey in uu si asluubaysan wax u sameeyo. sidaa daraaddeed wuxuu go'aansaday inuu si qarsoodii u furo, waayo ma uusan doonayn inuu ceebeeyo iyada. laakiin intuu waxaan ka fiirsanayey ayaa malaa'igtii rabbigu riyo ugu muuqatay, iyada oo leh, yuusuf ina daa'uudow, ha ka baqin in aad naagtaada maryan qaadatid, waayo waxa ay uuraysatay ayaa ruuxa quduuska ah ka yimid, oo waxa ay umuli doontaa wiil. magiciisana waxaad u bixin doontaa ciise, waayo dadkiisa ayuu dembiyadooda ka badbaadin doonaa. waxaasi oo dhan waxay u dhaceen in la arko wixii rabbigu kaga dhex hadlay nebiga, isaga oo leh, gabarh bikrada baa uuraysan doonta oo wiil umuli doonta, magaciisana waxaa loo bixin doonaa imaanu'eel, kan micihiisu yahay ilaah baa inala jooga. yuusuf murugtiisii waxa ay isku beddeshay haddaba farxad. war maxaa ilaah darajeeyey? maryan iminka waxa ay noqonaysaa hooyada masiixii la ballan qaaday. yuusufna waxa uu noqonayaa kan wiilka soo korinaya ama barbaarinaya. masiixa quduuska ayaa waxa uu yeelanayaa hooyo aadami ah, laakiinse lahaan maayo aabba aadami ah. oo magaciisuna waxa uu noqon doonaa ciise, oo ka dhigan ilaah baa wax badbaadiya. markaasaa yuusuf hurdadii ka kacay oo yeelay sidii malaa'igtu ay ku amartay, oo naagtiisii ayaa u qaatay. uma uusan tegin iyada ilaa ay wiil umashay, oo waxuu magaciisii u bixiyey ciise. ilaah ayaa haddaba waxa uu ku dhex jiraa xaaladda. 700 oo sano ka hor ayaa nebi mika waxa uu sii sheegay in boqorka masiixa ahi uu ku dhalan doonay magaalada baytlaxam oo ahayd magaaladii boqor daa'uud. yuusuf iyo maryam waxa ay ku noolaayeen naasaret, laakiin waxay ahayd haatan inay u safraan baytlaxam 3 maalmood. sidee baa haddaba qoraallada lagu fulinayaa? ilaah baa wax waliba gacmaha ku haya. markii ay gaartay haddaba wakhtigii maryan ay umuli lahayd, ayaa boqorkii roomaanka ah ee ahaa kaysar augustus ay cid waliba ku noqonayso magaaladii ay ka soo jeedeen si ay halkaa isaga diiwaangeliyaan oo u bixiyaan canshuurta. sidaas daraaddeed yuusuf iyo maryan oo xaamilo ahayd waxa ay ka safreen naasaret iyagoo ku sii jeeda baytlaxam.
waxaa dhacday kolkii ay halkaas joogeen in maalmihii ay umuli lahayd ay dhammaadeen, waxaana ay umushay wiilkeedii curadka ahaa. markaasay maro ku duuduubtay oo qabaal ku jiifisay, waayo meel ay ku hoydaan ayay hodhalladii ka waayeen. haddaba baytlaxam oo iminka ay isugu yimaadeen dad aad u fara badan si loo diiwaangeliyo oo cashuurahooda ay ula baxaan, ayaa haddana halkaasi gabadhi waxay ku dhashay badbaadiyihii la ballanqaaday. injiilka haddaba waxaa ku qoran dhacdadaas iyada ah, waxaana la leeyahay waxay umushay wiilkeedii curadka ahaa. marka la eego dhanka hooyada, waxa uu ahaa curadkeedii ay maryama dhashay, laakiin dhinaca aabbaha waxa uu ahaa wiilka ilaaha nool. waa isla kii ilaahu ku abuuray dunyooyinka. waa isla codkii ka imanayay buur Siinaayo, oo loo maqlayo sida cod ilmeed oo ooyaya. haddaba halkee buu ku dhashay? kuma uusan dhalan aqal boqortooyo, kumana uusan dhalan isbitaal. waxaase uu ku dhashay waddada geeskeeda. boqorkii samada ka yimid ayaa iminka waxa uu ku dhashay halka ay ku dhashaan waxaraha. waxa uu ku dhashay mooro xoolaad, waxaana la dhex geliyey qabaal. haddaba waxyaabahaasi oo dhan waxay ahaayeen qorshihii ilaah. waxaa qoraalladu ay leeyihiin, waad garanaysaa nimcada rabbigeenna ciise masiix, in isagu oo hodana uu aawadiin maskiin u noqday, in aad miskiinnimadiisa hodan ku noqotaan. laakiin ilaah miyuu qorshayn kari waayey in si wanaagsan oo xushmad leh uu wiilkiisa dunidan ugu dhasho? wuuna sameeyey. ilaahyuu ugu horrayntii ogeysiiyey warka imaatinka masiixa ee dunida. ma boqorrada, ma dadka tujaarta ah ee caanka ah, mise hoggaamiyaasha diinta? kuwii ugu horreeyey ee helay warka ku saabsan imaanshaha masiixa ayaa waxa ay noqdeen arijirradii ilaalinayay ama daajinayay idaha lagu bixinayo allabaryada macbudka ee jeruusaalem. dalkaas waxaa jiray arijirro bannaanka jooga oo habeenkii idahooda ilaalinaya. malaa'igtii rabbiga ayaa ag istaagtay oo ammaantii rabbiga ayaa iftiimisay hareerahooda. aad bayna u baqeen. markaasaa malaa'igtii ku tiri, ha baqanina, waayo ogaada waxaan idiin keenay war wanaagsan oo leh farxad weyn oo u ahaan dadka oo dhan. waayo maanta waxaa magaalada daa'uud idinku dhashay badbaadiyaha oo ah boqorka rabbiga ah. oo waxaa calaamad idiin ahaan doona tan: waxaad heli doontaan ilmo maro ku duuduuban oo ku jiifa qabaal. dhaqsaba waxaa malaa'igtii la jirtay guuto fara badan oo jannada ka timid, wayna ammaaneen ilaahoo lahaayeen, ilaah ha ku ammaanno meelaha ugu sarreeya, xagga dhulka nabad ha ahaato dadka ka farxiya ilaa dhexdooda. waxaa dhacay haddaba markii malaa'igihii ka tageen oo jannada ku noqdeen, in arijirradii isku yidhaahdeen, haddana aan tagno xataa ilaa iyo baytlaxam aan aragnay waxaas dhacay oo rabbigu inoo ogeysiiyey. markaasay dhaqso u yimaadeenoo waxa ay heleen maryan iyo yuusufba iyo ilmihii oo qabaal ku jiifa. oo goortay arkeen waxay ogeysiiyeen hadalka ilmahan looga sheegay iyaga. dadkii maqlay oo dhan ayaa ka yaabay waxyaalihii arijirradu ay u sheegeen. war maxay qiso cajiiba ahayd tan iminka ay arijirradu warinayaan. badbaadiyihii wuu dhashay, waan aragnay oo waannu taabannay. malaa'igta ayaa noo sheegtay in kanu uu yahay masiixa sayidka ah. oo hormo malaa'igaha oo jannada ka yimi ayaa waxa ay soo buuxidhaafiyeen samada. habeenkuna waxa uu ahaa sida dharar. masiixii waa kan, masiixii halkan ayuu joogaa. dadkii qaar baa rumaystay farriintii arijirrada, laakiin badankood ma wada rumaysan. rumayso ama rumaysan, laakiin boqorkan markii uu dhashay waxa uu dunidii u qaybiyey labo, waxaana uu ku soo biiray dadkii dunida. goortii 8 maalmood ay dhammaatay oo wiilkii la gudi lahaa, ayaa magaciisii waxaa loo bixiyey ciise, sida malaa'igtii ay ugu bixisay intaan la uraysan ka hor.
markuu ciise ku dhashay haddaba xerada dhexdeeda ama mooradii kadib, yuusuf waxa uu u diyaariyey meel munaasab ah oo ay ku noolaadaan. maalin maalmaha ka mid a ayaa rag xigmad lahaa oo baran jiray xiddigaha waxa ay yimaadeen yeruusaalem. waxaa hoggaaminaysay xiddig khaas ah. raggan xigmadda leh waxa ay ka yimaadeen meel fog, waxaana ay raadinayeen ilmaha dhashay ee boqorka ah. raggan xigmadda leh waxay halkan u yimaadeen hal su'aal iyo hal ujeeddo, waxaana ay ahayd halka uu joogo boqorkan yuhuudda ah ee dhashay. waayo bari baynu ka aragnay xiddigtiisii oo waxaannu u nimid inaynu caabudno. goortuu boqor herodos waxaan maqlay ayaa welwelay isaga iyo reer yeruusaalem oo dhan, oo intuu isu ururiyey culammadii dadka oo dhan ayaa uu weyddiiyey meesha masiixu uu ku dhalan lahaa. oo waxa ay yidhaahdeen baytlaxamtii yuhuudiya, waayo sidaasaa nebigu u qoray. markaasuu herodos nimankii xigmadda lahaa hoos ahaan ugu yeedhay oo ku yidhi, taga oo ilmaha aad u doondoona, oo goortaad heshaan isu ogeysiiya si anna aan ugu tago oo u caabudo. goortay boqorkii maqleen ayaa ay tageenoo xiddigtii ay bari ka arkeen ayaa hor kacday ilaa ay timi oo ay kor joogsatay meeshii ilmuhu uu joogay. oo goortay xiddigtii arkeen ayaa ay farxad aad u weyn u farxeen. markaasay gurigii galeenoo waxay arkeen ilmihii iyo maryan hooyadiis, wayna dhaceen oo caabudeen isaga. oo intay khasnadahoodii fureen ayaa waxay isaga u dhiibeen hadiyado dahab iyo beeyo iyo malmal ah. markaasaa riyo loogu diigay inaanay herodos ku noqon, oo dhulkoodii ayay jid kale u mareen. goortay ka tageen malaa'igtii rabbiga ayaa yuusuf riyo ugu muuqatay iyada oo leh kac oo kaxee ilmaha iyo hooyadiis oo masar u carar, oo halkaas joog ilaa aan kuu soo sheego, waayo herodos ayaa ilmaha dooni doonaa inuu dilo. herodos waxa uu isku dayey inuu dilo cunugii. dadka yeruusaalem way iska dhega tireen isaga. raggii xigmadda lahaa waxa ay mareen saxaraha si markaa ay u helaan masiixa. way dareejeeyeenoo waxa ay siiyeen hadiyado boqor istaahilo, dahab, foox iyo dhir qaali ah oo ku habboon meydadka in la mariyo, taasoo ay u keeneen. maxay u keeneen haddaba dhirta meydadka la marmariyo? nimankii xigmadda lahaa miyay ogaayeen ciise in uu u dhashay si uu u dhinto? kadib markii malaa'igtu ay u digtay ayaa yuusuf waxa uu waday maryama iyo wiilkii ciise ahaa oo wax uu geeyey masar, oo waxay halkaasi joogeen ilaa uu boqorkii herodos ahaa uu ka dhimanayay. laakiin goortuu herodos dhintay, malaa'igtii rabbiga ayaa riyo ugu muuqatay yuusuf oo masar jooga, iyadoo oo leh kaac oo kaxee ilmaha iyo hooyadiis oo dhulka israa'iil tag, waayo kuwii ilmaha naftiisa doonayey way dhinteen. tanina waxa ay soo kaamilaysaa waxyi kale oo qadiima. markaasoo ilaah uu lahaa, wiilkaygii waxaan uga yeeray dalka masar. yuusuf iyo maryama waxay ciise keeneen magaalada naasaret, halkaasoo uu kula soo koray gabdhihii iyo wiilashii ay isku hooyada ahaayeen. marka dhinacyo badan laga eego ayaa ciise masiix waxa uu shaabahayay carruurta kale. waxbuu cunayey, wuu hurdayey, wuuna ciyaarayey, waxna wuu baranayey, wuuna dhiganayey. laakiin marka dhanka kale laga eego ciise masiix, waxyaabo badan ayuu kaga duwanaa carruurta kale, waayo ma ahayn nin nafsaddiisa uun ka fekeraa. mar waliba waxa uu darajayn jiray waalidiintiis oo weligiina been uma sheegin, oo mar waliba wuxuu ka farxinayay aabbihiisa samada ku jira. waxa uu ahaa mid quduusa oo aan khiyaano iyo wasakh toona lahayn,
oo dembiilayaasha ka socan. ciise waa dhallaanka keliya ee taariikhda ku qoran ee kaamilka ah. kaamil looma jeedo inaannu macluulin amaanay finan ka soo bixin, waxaase ay ka macno tahay in xagga dabeecadda uu ahaa mid kaamila, wuxuuna ahaa mid quduusahoo aad iyo aad u wanaagsan. xitaa awooddiisa iyo xigmaddiisa kaamil bay ahayd. laakiin intaannu gelin uurkii hooyadiis ayaa waxa uu goostay inuu isxakameeyo oo uu u noolaado sida bani'aadmiga. ciisena waxa uu ku koray xigmad iyo dherer iyo nimco ilaah iyo dadka hortooda. markii uu 12 jirsaday ayaa uu waalidiintiis kala yimi magaalada naasaret iyagoo oo ku sii jeeda magaalada yeruusaalem si ay ugu soo dabaaldegaan ciidda kormaridda. wiilashii kale magaalada ayaa ay baranayeen, laakiin ciise waxa uu soo dhex galay macbudka isagoo wadaadada la fadhiya oo welibana su'aalo weydiinaya waxna ka baranaya. dadkii maqlay oo dhan ayaa waxa ay la yaabeen garashadiisa iyo jawaabihiisa. macbudku waxa uu ahaa meesha wanka allabariga lagu gubo dembiyada dadka darteed. wiilkii ciise ahaa waxa uu doonayaa inuu wax fahamsiiyo, laakiin culimmadii waxba ma aan fahmin. waxa uu u yimi inuu u hibeeyo iyaga wankii ugu dambeeyey. 30 sano ayaa ka soo wareegatay haddaba dhalashadii ciise masiix ee baytlahem. kaysar augustus waa dhintay. wiilkii naagtiisu dhashay kaysar tiberias ayaa waxa uu iminka u talinaya roma. herodos antibas waxa uu u talinayay galilei. bontos bilatosna waxa uu xukumayay yahuudiya, oo nebi ayaa dhulka falastiin ka wacdiyeeyey. maalmahaas waxaa yimid yuxana baabtiisaha isagoo oo cidlada yahuudiya wax ku wacdiyeeya oo leh toobadkeena, waayo boqortooyadii jannadu way dhowdahay. waayo kan waa kii nebi ishaaciyaha ka hadlayey kolkuu yidhi, waa codka kan cidlada kaga qaylinaya jidka rabbiga hagaajiya waddooyinkiisa toosiya. yuxanaa qudhiisu waxa uu guntanaa dharkiisii dhogorta geela ahaa oo suun megadana dhexdu ku xidhnaa. cuntadiisu waxa ay ahayd ayax iyo malab dibadeed. ergadiisa darteed yuxanaa waxa uu cunayaa ayax iyo malab dibadeed, laakiin dadkii wakhtigiisa cunno wanaagsan bay cuni jireen. yuxanaa waxa uu ahaa midka hor socda boqorka. boqolaal sannadood ka hor ayaa nebi ishaaciya iyo weliba nebi malaki waxa ay sii sheegeen nebi mustaqbalka kaasoo ogeysiin doona dadka imaatinka masiixa boqorka. yuxanaa waxa uu ahaa nebigaas. intii ay nebiyadii hore wax sii sheegayeen, wakhtigii saxda ahaa ayaa badbaadiyaha la ballanqaaday waxa uu imanayaa dunida. yuxanaa waxa uu ku khudbadaynayay oo lahaa waagaas waxaa la gaaray wakhtigii badbaadiyaha uu iman lahaa. dad badan ayaa meel waliba uu yimaado ku soo qulquli jiray. waxa ay qirteen xaaladahooda dembiga oo waxa ay u baahnayeen badbaadiyaha, waxaana lagu baabtiisay webiga urdun. taasina waxa ay ku tusaysaa iimaankooda ay ku qabaan masiixa, kaasoo markaa iyaga ka nadiifinayay qaantii weyneed ee lagu lahaa si ay xaqnimo u huwadaan. maalinba maalinta ka dambaysa haddaba, ama wiigba wiigga ka dambeeya, yuxanaa waxa uu dadka kala hadlayey midka wakhtiga dheer la sugayey oo ah badbaadiyaha samada ka yimi, kan aanan istaahilin in aan kabihiisa u qaado. isagu wuxuu idinku baabtiisi doonaa ruuxa quduuska. hal maalin kadib badbaadiyuhu wuu yimi, wuxuuna ka yimi buurta korkeeda. waxa uu soo dhex maray dad badan oo isaga ku xumsan, waxaana uu u yimi yuxanaa oo dadka baabtiisaya. yuxanaa waxa uu farta ku fiiqay ciise oo yidhi, bal eega wankii ilaah oo qaadaya ciqaabta dunida. waa maxay sababta yuxanaa ugu yeeray ciise wankii ilaah? haddii aad garatid haddaba sababta, waxaad garanaysaa ergada boqorka. ciise waxa uu weydiiyey yuxanaa inuu baabtiiso isaga. yuxanaa wuu diiday, waayo masiixa boqorka ah oo ka yimi samada ma u baahnayn inuu toobad keeno. laakiin ciise waa u jawaabay oo ku yidhi,
haddeer ogolow waayo sidaas waa inoo eg tahay inaynu xaqnimada oo dhan wada yeelanno oo Yooxanaa wuu baabtiisay ciise. baabtiiskiisii ayaa muujinaya inuu inaga tirsan yahay. ciise goortii la baabtiisay ayaa uu markiiba biyaha kor uga baxay. kolkaasaa samooyinku furmeeno waxa uu arkay ruuxa ilaah oo sida quullay oo kale u soo degaya oo dushiisa imanaya. cod baana samooyinka waxa uu ka lahaa, kan waa wiilkayga aan jeclahay oon ku faraxsanahay. isla sida maalintii koowaad ee abuurniinta ayaa iminka waxaa la muujinayaa midnimada ilaah mar kale, weliba ilaah iyo ruuxiisa iyo hadalka oo iminka waxa ay u wada shaqaynayaan sida mid oo kale inay wax badbaadiyaan. waxaa qoran, waxaannu arkaynaa in ruuxa ilaah bilowgii uu ku duldhaqaaqayay biyaha oo uu ku soo degay ciise. waxaannu arkaynaa haddaba wiilka ilaah waa ereygii abuurniinta oo ka soo baxaya webiga. waxaana aannu maqlaynaa aabbaha oo samada ka hadlaya. 30 sano ee la soo dhaafay ciise waxa uu ku noolaa haddaba si qarsoodi ah, waxaana uu ka qarsoomay indhaha dadka. aabbihiisa samada ku jira waxa uu eegayey maladiisa, hadalka, ficilka. maxay ahayd haddaba xukunkii ilaah ee nolosha wiilkiisa? waxaana ay noqotay isaga oo aan ku faraxsanahay. taariikhda aadmiga haddaba ciise waxa uu ahaa qofka keliya uu sameeyey wax kasta ee ilaah ku faraxsan yahay. wax kasta, had iyo goor, si kaamil ah. ciise waxa uu sameeyey wixii aadan uu samayn kari waayey, waayo ciise masiix waxa uu shabbahayay ilaah oo waxa uu sameeyey wax ka badan weliba taa. isagu waxa uu ahaa wiilka ilaah. ilaah wuxuu waagii hore siyaalo kala duwan awoowayaasheen kula hadlay nebiyadii, laakiin maalmaha ugu dambeyntooda waxa uu inagula hadlay wiilkiisa oo uu ka dhigay kan wax waliba dhexla, kan uu duniyooyinka ku sameeyey, oo isagu waa dhalaalka ammaantiisa iyo u ekaanta ahaantiisa, oo waxa uu wax waliba ku hayaa ereyga xooggiisa. ma ahan haddaba wax lala yaabo in ciise horay u yidhi, aniga iyo aabbuhu mid baynu nahay. ciise masiixna haddaba waxa uu ahaa wiilkii kaamilka ahaa. shayddaanku kuma farxin, kumana faraxsanayn in ninkan kaamilka ah uu ku noolaado boqortooyadiisa. laakiin shayddaankii waxa uu lahaa ama uu watay xeel. isla siduu u jarrabay ninkii ugu horreeyey oo uga adkaaday ayuu haddana isku dayi doonaa inuu ninkanna jarribo. shayddaanku waxa uu doonayay in uu is-hoos keeno ciise, isla sidii uu aadanba isku hoos keenay. haddii wiilka ilaah dembi lagu jarrabi karo, haddaba uma uusan qalmayn in uu dadkan ka badbaadiyo dembiyada. goortaasaa ruuxu ciise cidlada u kaxeeyey in ibliiska uu jarribo. oo goortuu 40 maalmood iyo 40 habeen soomanaa ayaa uu dabadeeto gaajooday. markaasuu duufiyihii u yimi oo ku yidhi, haddaad tahay wiilka ilaah, dhagaxyadan ku dheh kibis noqda. ciise wuu gaajooday, laakiin ma uusan aadicin shayddaanka. muxuu samayn kari lahaa haddaba? ciise masiix ma uusan samayn karin waxaan ahayn doonista aabbihiis. masiixu ma uusan isticmaalin awooddiisa si uu u qanciyo baahiyadiisa. inuu la diriiro haddaba shayddaanka ciise waxa uu soo xigtay towraddii muuse. waxaa qoran, dadku waa inaanu kibisoo keliya ku noolaan, laakiin waa inuu erey waliba oo afka ilaah ka soo baxa ku noolaado. doqonnimadiisa kibirka leh ayaa shayddaankii waxa uu isku dayey mar kale inuu jarribo kan quduuska. haddana ibliiska ayaa buur aad u dheer geeyey, waxaana uu tusay boqortooyooyinka dunida oo dhan iyo ammaantooda. wuxuu ku yidhi, waxyaalahan oo dhan baan ku siinayaa haddii aad ii sujuuddo oo aad i caabuddo.
markii aadan dembaabay ayaa dadku ay lumiyeen awooddii dunida ay ku lahaayeen. shayddaanka ayaa iyaga ka khiyaamiyey awooddaas iyadaa si uu dunida u xukumo. haddaba boqorka ammaanta waxa uu joogay dunida in uu soo cesho awooddaas, laakiin uma uu sujuudi doono kan uu u yimi inuu burburiyo. markaasaa ciise waxa uu ku yidhi, shayddaanyo bax, waayo way qoran tahay waa inaad caabuddo rabbiga ilaahaaga ah oo waa inaad isaga keliya u adeegto. ugu dambayntii haddaba shayddaanku waxa uu ka tegey ciise. shayddaanku weligii ma jarrabin qof ciise oo kalea, nin aan damac lahayn oo weliba aan lahayn awoodda dembiga. ciise waxa uu ka duwanaa aadan iyo farcankiisa. aadankii koowaad waxa uu ka yimid dhulka, laakiin aadankii labaad waxa uu ka yimid samada. aadan waxa uu ahaa ninka kaamilka ah ee ugu horreeyey. ciisena waxa uu ahaa ninkii labaad oo kaamilka ahaa. markii shayddaanku jarrabay aadan ayaa aadan guuldaraystay, laakiin shayddaankiina wuu guulaystay. markuu haddaba shayddaanku isku dayey inuu ciise dambaajiyo, shayddaanku wuu guuldaraystay, ciisena wuu guulaystay. ninkii ugu horreeyey waxa uu nagu hoggaamiyey haddaba boqortooyada shayddaanka ee dembiga iyo dhimashada. ninkii labaadna waxa uu u yimid inuu nagu hoggaamiyo ka bixidda dembiga iyo dhimashada. kadib markii shayddaanku isku dayey inuu dambaajiyo dabadeed ayaa ciise waxa uu ku noqday nasaret, halkaasoo uu ku koray oo uu ka ahaa nijaar. maalintii sabtida ayaa uu baxay oo waxa uu tegey sinagoga sidii caadadiisu ay ahayd. sinagoga waxa uu ahaa guriga cibaadada, halkaasi oo qoraallada lagu akhriyi jiray oo loogu fasiri jiray oo lagu fahamsiin jiray dadka sabti kasta. sabtigan ciise waxa uu dadka u hayaa ogeysiis. wuu istaagay in uu wax akhriyo, waxaana loo dhiibay kitaabkii nebi ishaaciyaa. oo goortuu kitaabkii furay ayaa uu helay meeshii lagu qoray, ruuxii rabbiga ayaa ii dul jooga, waayo waxa uu ii subkay inaan war wanaagsan masaakiinta ku wacdiyo. wuxuu ii soo diray inaan kuwa xidhan furrinnimada ogeysiiyo iyo kuwa indhahala soo celinta araggooda. wuxuu ciise ka akhriyey qorniinka waxay ahayd waxyi qadiim ah oo ku saabsan masiixa boqorka ah, kaasoo tusi doona dunida sida uu ilaah yahay oo ka badbaadin doona dembiilayaasha awoodda shayddaanka, dembiga, dhimashada iyo weliba cadaabta. intuu ciise kitaabkii isku duuduubay ayaa uu madiidiinkii u dhiibay oo fadhiistay. oo dadkii sinagoga ku jiray oo dhan ayaa indhaha ku taagay. markaasuu bilaabay inuu ku yidhaahdo, maanta qorniinka dhegihiinnu maqlay waa rumoobay. sidee bay haddaba kaga jawaabeen derisyadii ciise masiix sheegashadiisana ah inuu yahay masiixii la ballanqaaday ee ka yimid samada, kaasoo kaamili doonay waxaa nebiyadu ay ku qoreen qorniinka. markii kuwii sinagoga ku jiray oo waxaas maqleen ayaa ay aad u caroodeen. markaasay kaceen oo magaaladii ka saareen, waxaana ay u kaxeeyeen buurtii magaaladooda ka dhisnayd qarkeedii inay ka tuuraan. laakiin intuu dhex maray ayaa uu iska tegey. ciise waxa uu lahaa xukun, waxaana uu ka duwanaa aadankii dembigu aafeeyey iyo farciisii dhintay. laakiin masiixa boqorka ayaa loo doortay in uu lahaado maamul dhammaystiran. ma jiro cid isaga waxyeeli karta ilaa uu isagu raalli ka noqdo, laakiin iminka isaga ayaa taabanaya. waxaa ku qoran qoraalladii nebiyada mid ka mida magacyadii masiixa oo ahaa gacanta rabbiga. ciise mucjisooyinkiisii waxa ay tuseen isaga inuu yahay gacantii ilaah ee dunida dusheeda. wax kasta ee uu gacantiisa saaro ama hadal afkiisa ka soo baxa ayaa dadkii bukayey iyo kuwa dhimanayeyba ay ku bogsan jireen. kolkaasaa waxaa u yimid dad badan oo cuuryaan ahaa, iyo kuwa indhala, iyo kuwa carabla, iyo kuwa addimala, iyo qaar badan oo kale, oo waxay iyaga dhigeen cagihiisa agtooda, wuuna bogsiiyey. oo ereyadii ay qoreen nebiyada waa la kaamilay.
kuwii indhaha la'aa waxbay arkeen, kuwii lugaha la'aana way socdeen, kuwii baraska qabayna waa la nadiifiyey, kuwii dhagaha la'aana waxbay maqleen, kuwii dhintayna waa la kiciyey, masaakiintana injiilka waa lagu wacdiyey. ma jirin haddaba cudur ciise uusan bogsiin karin. markaasaa waxaa u yimid nin baras leh, wuuna jilba joogsaday oo baryey oo ku yidhi, haddaad doonaysid waad i daahirin kartaa. kolkaasaa ciise u naxariistay oo intuu gacantiisa soo taagay ayaa uu taabtay oo ku yidhi, waan doonayaa ee daahirsanow. oo kolkiiba baraskii ayaa waxa uu ka baxay jidhkiisa, oo jidhkiisiina uu daahirsanaaday. markii qorraxdu ay sii dhacaysay, dadkii oo dhan oo ay ku jireen dad cudurro kala cayncaynaha qabay ayay u keeneen, oo mid waliba gacmihiisuu saaray oo bogsiiyey. jinniyana dad badan ayaa ay ka soo baxeen, iyagoo oo qaylinaya oo leh, adigu waxaa tahay wiilkii ilaah. isaguse wuu canaantay oo uma oggolaanin inay hadlaan, waayo waxa ay garanayeen inuu masiixa yahay. ciise ma uusan doonaynin in ruuxyada sharka isaga ay u markhaati furaan. malaa'igahan shar kale waxay u markhaati fureen awooddiisa iyo xooggiisa markii uu la hadlay samooyinkii dunidu inay ahaadaan. way gariireen markii ay soo xusuusteen wakhtigii uu iyaga samada ka soo tuuray. iminkana sida isagoo dad ah ayaa uu dunida joogaa, oo waxaa iminka sii baaba'aya awooddii sayidkoodii shaydaanka ahaa. ammaanta ilaahya waxay soo dhex geshay xukunkooda. meel kastoo ciise masiix tegayba shayddaanka awooddiisii way sii liciifaysay, oo meel kasta uu tegana habaarkii dembiga waa la dabagediyey. waxaa daba socday haddaba mucjisooyinkaasi farriimihii ciise, oo waxa uu yidhi, wakhtigii wuu buuxsamay oo boqortooyadii ilaah waa soo dhowaatay. toobadkeena uu injiilka rumaystaa. ciise waxa uu doortay 12 xira oo isaga la socon jirtay oo weliba wax ka baran jirtay. waxaa kaloo la socon jiray dumar aad u badan. waxa ay ku taageeri jireen xirtigii ciise in ay cunnooyinka u koriyaan oo lacagana u keenaan. mid kastoo isaga rumaysta waxa uu ku oran jiray, isoo raac. in isaga la soo raaco waxay tabanaysaa kharash, oo waxauu yidhi, oo mid kasta oo aabbihiis iyo hooyadiis iga jecel ima istaahilo, oo kan wiilkiisa iyo gabadhiisa iga jecel ima istaahilo. maxaa yeelay xertiisa qaar waxa ay ahaayeen kalluumaysato. inta badan ciise waxa uu ka wacdiyi jiray xagga hoose ee badda galilii. dadkuna waxay uga iman jireen dhul fogfog iyo mid soke. haddana waxa uu bilaabay inuu badda agteeda wax ku baro, oo wuxuu soo ururiyey dad badan. sidaa darteed doonni ayaa u fuulay, wuxuuna fadhiistay badda. dadkii badnaana waxa ay joogeen badda xeebteeda. markuu maalintii oo dhan wax barayey dabadeed ayaa ciise waxuu xertiisii ku yidhay ina keena gediga kale. durba ciise waxa uu soo galay doonnida, waxaana bilowday safarkii iyaga oo ka tegaya dadkii badnaa. waxaa kacay haddaba duufaan weyn oo dabayl ah, hirarkiina doonniday ku dhacayeen ilaa doonnidii ay buuxsantay. isaguna waxa uu joogay xagga dambe ee doonnida isagoo oo barkin ku hurda. markaasay toosiyeen oo ku yidhaahdeen, macallimow, miyaanu waxba kula ahayn inaynu lunno? kolkaasuu kacay oo dabayshii xanaantay, oo baddu uu ku yidhi, aamus oo xasil. markaasaa dabayshii degtay oo xawaal weyn baa dhacay. goortaasuu wuxuu iyagii ku yidhi, maxaad sidaas ugu baqaysaan? sidee baynan weli rumaysad u lahayn? aad bay u baqeen, oo waxay isku yidhaahdeen, haddaba yuu yahay kan xataa dabaysha iyo badduba yeelaan? yaa weeye ninkan? sannado badan ka hor wakhtigan ayaa nebi daa'uud su'aasha iyadaa ka jawaabay markuu lahaa, oo waxay sameeyaan ayay garan waayaan.
markaasay rabbigu u qayshadeen iyaga oo dhiban, oo isna waxa uu ka soo samato bixiyey dhibaatooyinkooda, oo waxa uu dejiyey duufaanka si ay hirarkiisa u xasilaan. yaa ku dejin kara dabaysha iyo hirarka hadal lala hadlay oo keliya? waa isla codkii iyaga sameeyey. maalin maalmaha ka mid ah ayaa 4 nin oo ku siday bareelle nin cuuryaana waxa ay yimaadeen gurigii ciise uu ku jiray. nimanku waxa ay isku dayayeen in ay jid bannaystaan si ay ku gaaraan halkii ciise masiix uu joogay. markii ay dusha koreen ayaa waxa ay ka qaadeen saqafkii, oo waxaana ay hoos uga soo geliyeen sariirtii halkii uu ciise fadhiyey horteeda. ciise kolkuu rumaysadkoodii arkay ayuu ninkii cuuryaanka ahaa ku yidhi, wiilkow, dembiyadaadu waa cafiyan yihiin. ciise waxa uu ogaaday haddaba ninka baahidiisii ugu weyneyd inaysan ahayn inuu socdo, laakiin inuu cafiyo dembiyadiisa. laakiin halkaa waxaa joogay qaar culimmada ka mida waxa ay isku yidhaahdeen, ninkanu muxuu sidanu leeyahay? wuu caytamayaa. yaa dembiye cafiyi kara? ilaah keliya maahee. kolkiiba ciise waxa uu ka ogaaday inay sidaa qalbiyadooda ku fikirayaan, oo waxa uu ku yidhi, maxaad waxaan qalbiyadiinna uga fikiraysaan? iyomaa howl yar in curyaanka lagu yidhaahdo dembiyadaadu way cafiyan yihiin, ama in lagu yidhaahdo kac oo sariirtaada qaado oo soco. laakiin si aad ku garataan in wiilka aadanuhu dhulka ku leeyahay amar uu dembiyada ku cafiyo, ayuu ninkii curyaanka ahaa ku yidhi, waxaan ku leeyahay kac oo sariirtaada qaado oo gurigaaga tag. kolkiiba wuu kacay oo sariirtiisii qaatay, wuuna baxay dadkii oo dhan hortooda. sidaas daraaddeed ayaa ay la yaabeen, wayna ammaaneen ilaah oo waxa ay yidhaahdeen, weligiyo sidan oo kale maanan arag. culimmadii sharciga waxaa indho tiray xeerarkooda iyo kibirkooda. waxa ay ku fikirayeen sidan, oo waxay lahaayeen, ciisow, waad caytamaysaa. waxaad caynaysaa ilaah, waayo waxa aad sheegaysaa inaad cafiso dembiyo, laakiin ilaah keliya ayaa taasi samayn karaa. waxa ay haddaba ku saxsan yihiin in ay sidaa u fikireen oo ilaah keliya uu yahay kan cafiyi kara, laakiin waxa ay ku khaldanaayeen inay si xun u fahmeen cidda ciise masiix uu ahaa. maxay kula tahay haddaba adiga qudhaada in ciise uu yahay? miyaad xusuusataa macnaha magaciisa? waxa macnuhu uu ahaa rabbiga ina badbaadinaya. magaalo ka mida dhulka falastiin ayaa dadkii ciise masiix uu waxbarayey waxa ay gaareen go'aankan, oo waxay yidhaahdeen, qudhayadu waannu maqalay, waannuna naqaanaa kanu inuu yahay badbaadiyaha dunida. ciise waxa uu awood sare ku leeyahay dhanka abuurniinta. weli iyaga kuma uusan odhanin kaalaya oo aniga i caabuda, waayo waxaan ahay ilaah. sidaa kuma uusan odhan, ilaah unbaa sidaa samayn karaa. laakiin waxa uu doonaya dadku in ay iyana fikirkooda la yimaadaan. ka fakara labadii qiso ee aad maqashay. maxay kula tahay in ciise uu yahay? ciise masiix waxa uu soo aaday magaalada la yidhaahdo naa'iin, waxaana isaga la socday xirtiisa iyo dadkii badnaa. oo goortuu iriddii magaalada ku soo dhowaaday, waxaa dibadda loo waday nin meyd ah oo madi u ahaa hooyadiis, iyaduna waxay ahayd carmal, oo waxaa iyada la jiray dad badan oo magaalada ka yimid. rabbigu goortuu arkay iyada ayaa u naxariistay oo ku yidhi, ha ooyin. oo intuu ku soo dhowaaday ayaa uu taabtay rabrabtii ama naxashkii.
kuwii sidayna way joogsadeen. dhallinyarow waxaan kugu leeyahay kac. kolkaasuu kii dhintay sare fadhiistay oo bilaabay inuu hadlo. oo markaasaa ciise isagii u dhiibay hooyadiis. kulligood baqdin baa ku wada dhacday oo ilaah bay ammaaneen. maalin kale ciise waxa uu soo booqday 2 walaalo ah oo gabdho ah oo barooranaya, waxaanay kala ahaayeen Maarta iyo Maryan. 4 maalmood ka hor walaalkood Lazarus ayaa dhintay. markaasaa Maarta waxay ciise ku tiri, saydow, haddaad halkan joogtid walaalkay ma uu dhinteen. ciise ayaa ku yidhi, anigu waxaan ahay sare kicidda iyo nolosha. kii i rumaystaa inkastoo uu dhinto wuu noolaan doonaa. kii kasta oo nool oo i rumaysta weligii ma dhiman doono. waxaan ma rumaysan tahay? waxay ku tiri, hah saydow, waan rumaysanahay inaad tahay masiixa oo ah wiilka ilaah ee dunida iman lahaa. ciise ayaa xabaashii yimi. waxay ahayd good dhagax baana dusha laga saaray. ciise ayaa yidhi, dhagaxa ka qaada. Maarta oo ahayd kii dhintay walaashiis waxa ay ku tiri, saydow, hadda wuu urayaa, waayo 4 maalmood buu mootanaa. ciise waxa uu ku yidhi, miyaanu kugu odhan, haddaad rumaysatid waxaad arki lahayd ammaanta ilaah. markaasay dhagaxii ka qaadeen. waxa uu ku dhawaaqay cod weyn, Laasarusow, soo bax. markaasaa kii dhintay soo baxay, isagoo gacmaha iyo cagaha ay karfanta kaga xihan tahay. kolkaasuu ciise waxa uu ku yidhi iyaga, furo oo daaya ha socdee. ciise masiix waxa uu ahaa shakhsiga keliya ee ku qoran taariikhda aadanaha kaasoo oran karay, anigu waxaan ahay sare kicidda iyo nolosha. shuqulladiisu waxay caddaynayeen in isaga uu ahaa hadalka rasmiga ah. dad badan ayaa isugu soo xoomi jiray halka uu xertiisa wax ku barayo, oo welibana wakhti aad iyo aad u fara badan ayaay halkaa la joogi jireen. alaba waxa ay kula kulmi jireen lamadegaanka ama cidlada, halkaasoo ay wakhti kula qaadan jireen isaga iyo xertiisa, mararka qaarkoodna gaajaysan. tanina waa wixii dhacay galab ka mida galbaha oo ay halkaa ku sugnaayeen 5,000 qof, waxayna iska urursadeen buurta bari ee badda Galilii. sidaas darteed ciise waxa uu weydiiyey Filibos, xaggee baynu cunno ka soo iibinaa si dadkan aynu cunno ugu helno? Filibos unbuu jirribayey ee sayidku wuu ogaa waxa ay tahay in la yeelo. Filibos waxa uu ugu jawaabay, 200 diinaar oo kiisa kuma filna in nin waliba wax yar qaato. markaasaa xertiisii midkoodoo la oran jiray Andros oo Simon Butros walaalkiisa ah waxa uu ku yidhi, waxaa halkan inala jooga wiil haysta 5 kibsooda shaciira iyo 2 kalluun. laakiin waxaasi maxay u tarayaan dad sidan u badan? markaasaa ciise waxa uu ku yidhi, fariisi dadka. meeshiina waxa ay lahayd doog badan. haddaba nimankii way fadhiisteen, tiradooduna qiyaastii waxay ahayd 5,000. haddaba ciise kibistii buu qaaday oo goortuu mahadnaqay ayuu u qaybiyey kuwii fadhiyey. sidaa oo kalena kalluunkii intay doonayeen. markaasay wada dhargeen. wuxuu xertiisii ku yidhi, ururiya jajabka haray, waxba iyaanay hallaabin. sidaas daraaddeed ayaay ururiyeen
oo 12 dembiilood ayaa ay ka buuxiyeen jajabkii ka haray kuwii 5 kibsood oo shiciirka ahayd cunay. maalintii ku xigtay dadkii qaarkood waxa ay raadiyeen ciise iyadoo ay doonayeen inay ka dhigtaan boqor. sababta ay doonayeen inay boqor uga dhigtaanna waxay ahayd si ay kaga badbaadaan imbaraadooriyaddii xasuuqa badnayd ee reer rooma nacfina u helaan. ciise waxa uu u sheegay iyagii, ha u shaqaynina cuntada hallaabaysa, laakiin u shaqeeyay cuntada sii jiraysa ilaa nolosha weligeed ah ee wiilka aadanuhu idin siin doono. waayo isaga aabbaha ilaaha ah ayaa caddeeyey, anigu waxaan ahay kibista nolosha, kii ii yimaada ma gaajoon doono, kii i rumaystaana ma raadi doono weligiis. cuntadu waxa ay jidhka siin kartaa nolol wakhti yar, laakiin sayid ciise masiix oo keliya ayaa ku siin kara nolosha runta ah hadda iyo weligeedba. ciise oo keliya ayaa markaa oran karay, anigu waxaan ahay kibista nolosha. ciise ma aanu la mid ahayn sida madaxdii diinta kuwaasoo oran jiray, oo sidaa yeel oo sidan ha yeelin, kani waa jidka. ciise waxaa keliya uu dhihi karay, anigu waxaan ahay jidka, runta iyo nolosha. ciisena wuu ka duwanaa nebiyadii dembiyadooda dartood allabaryadu u bixin jiray oo qoray wax ku saabsan masiixa iman doona. ciise waxa uu yidhi, ha u malaynina inaan u imid inaan sharciga ama qorniinka nebiyada baabi'iyo. uma iman inaan baabi'iyo, laakiin waxaan u imid inaan wada oofiyo. sida badan ciise waxa uu barayay xirta sida waddaniyiinta boqortooyada samada ay ugu noolaan karaan si waafaqsan dabiicadaha iyo ammaanta boqorkooda. waad maqasheen in la yidhi waa in aad deriskaaga jeclaatid oo cadowgaaga nibcatid, laakiin waxaan idinku leeyahay, cadowyadiinna jeclaada oo ilaah u barya kuwa idin caaya oo idin silciya. oo goortaad tukanaysaan ha ahaanina sida labawajilayaasha, waayo waxay jecel yihiin inay tukadaan si ay dadka ugu muuqdaan, laakiin adigu goortaad tukanaysid qolkaaga qarsoon gal, oo goortaad albaabkaaga xiratid aabbahaaga meesha qarsoon ku jira bari. haddaba sida tan u tukada, aabbaha iyaga jannada ku jiro magacaaga quduus ha ahaado, boqortooyadaada ha timaado, doonistaada dhulka lagu yeelo sida jannada loogu yeelo. kibis maalin nagu filan maantana sii. sidaas darteed ha ka welwelina idinka oo leh, maxaannu cunaynaa ama maxaannu cabbaynaa ama maxaannu huwanaynaa, waayo qurumuhu waxaasoo dhan ayaa ay doondoonaan. aabbihiinna jannada ku jira waa og yahay in aad waxaasoo dhan u baahan tihiin. laakiin horta doondoona boqortooyadii ilaah iyo xaqnimadiisa, oo waxaasi oo dhanna waa laydinku dari doonaa. iska jira nebiyada beenta ah, kuwa idinku imanaya iyaga oo qaba dhogor idaad, laakiin hoosta ka ah iyay wax boobaysaa. haddaba qof kasta oo erayadan maqla oo yeela waxaa loo ekaysiin doonaa nin caqli leh oo gurigiisa ka dul dhistay dhagaxa. roobkii ayaa da'ay, daadkiina waa yimid, dabayshiina waa dhacday, wayna ku dhaceen gurigaas. ma uuna dumin, waayo waxaa lagu dul dhisay dhagaxa. qof kasta oo erayadeeda maqla oo aan yeelin waxaa loo ekaysiin doonaa nin doqona oo gurigiisa carada ka dul dhistay. roobkiina waa da'ay, daadkiina waa yimid, dabayshiina waa dhacday, wayna ku dhaceen gurigaas, wuuna dumay, dumistiisuna way weynay. ninna weligiis uma hadlin sida macallinkan ka yimid jannada. culimmada iyo wadaadada dadka yuhuudda ah ma aysan ku faraxsanayn inay arkaan dadweynaha oo dhegaysanaya ciise. waxay rabeen dadku inay iyaga dhegaystaan, isagana aan la dhegaysanin.
maalin maalmaha ka mid ah ayaa wadaadadii sare iyo culimmadii waxa ay soo direen saraakiishii macbudka si masiixa loo soo xiro. umase hirgelin. markii saraakiishii la diray ay soo noqdeen ayay ku yidhaahdeen, maxaad u keeni weydeen isaga? saraakiishii waxa ay ku jawaabeen, ninna weligiis uma hadlin sida ninkaasi u hadlay. xataa nebiyadu maysan u hadlin sida ciise. nebiyadu waxay ahaayeen sida shumacyo fallaare elays ah oo ku iftiimaya duni mugdi ah dhexdeeda, laakiin masiixu wuxuu ahaa qorraxdii xaqnimada. yaa u baahan shumacyo markii qorraxdu soo baxdo? ciise waxa uu yidhi, anigu waxaan ahay nuurka dunida. kii isoo raacaa gudcurka kuma socon doono, wuxuuse lahaan doonaa nuurka nolosha. ciise waxa uu yahay ereyga oo bilowga yidhi iftiin ha ahaado. wuxuu noqday isha ugu dambaysa ee iftiinka jir ahaan iyo ruux ahaanba. markii uu soo dhowaaday haddaba wakhtigii la kaamili lahaa howshiisa ayaa ciise waxa uu soo watay 3 ka mid a xertiisa oo kale ahaa butros, yacquub iyo yoxanaa, waxaana uu geeyey buurta dusheeda. hortoodana wuu ku beddelmay. wejigiisuna sida qoraxda oo kale ayaa uu u dhalaalay, dharkiisuna sida nuurka oo kale ayaa uu caddaaday. oo baleeg waxaa iyaga u muuqday muuse iyo eliyaa oo la hadlay isaga. intuu weli hadlayey, daruur dhalaalaysa ayaa haraysay, oo cod baa daruurtii ka soo dhex baxay oo yidhi, kan waa wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay, maqla isaga. xertiina goortay maqleen ayaa wejigoodii u dhaceen oo aad bayna u baqeen. markaasaa ciise u yimid oo taabtay oo ku yidhi, kaca, hana baqinina. goortay indhahoodii kor u qaadeen, cidna ma ayan arkin, ciise keliya maahee. xerta weligood ma ayan iloobin wixii ay arkeen maalintaasi. wakhti dambe ayaa butros waxa uu qoray, waxaannu ahayn markhaatiyaal indhaha ku arkay weynaantiisa. yoxanaa waxa uu yidhi isna, waxaannu aragnay ammaantiisii, taas oo ahayd ammaantii u ekayd tan wiilka keliya ee aabbaha ee nimco iyo runka buuxa. laakiin iminka ammaanta wiilka waxa ay ku sii dhex jiri doontaa jirkiisa bani aadannimo, waana wakhtigii boqorka uu soo kaamili lahaa hawshiisii. saddex sannadood ayaa ciise masiix waxa uu ku wareegi jiray dhulkii falastiin. wanaaggana wuu fali jiray oo waxa uu bogsiin jiray kuwii ibliisku cadibay oo dhan. dadka caadiga ahi waxay jeclaayeen isaga, laakiin taliyaashii joogay yeruusaalem ayaa waxa ay doonayeen inay isaga shirqool ku dilaan. ciisena waa ogaa. goortii wakhtigii isaga kor loo qaadi lahaa uu soo dhowaaday, waxa uu wejigiisii u jeediyey inuu yeruusaalem tago. haddii aad ogaan lahayd in ay jiraan rag doonaya inay ku qabtaan oo ku silciyaan oo ku dilaan, maxaad samayn lahayd? ciise wuxuu hadda u socdaa kuwii shirqooli lahaa. kolkaa dabadeed ciise ayaa bilaabay inuu xertiisii u sheego inay waajib ugu tahay inuu yeruusaalem tago oo xanuun badan ka helo waayeellada iyo wadaaddada sare iyo culimmada, oo la dilo, oo maalinta 3aad la sara kiciyo. kani ma ahayn haddaba nooca boqorka xirta ay raadinayeen. in masiixu silco lama ayan ahayn xirta, oo taa lama ahayn in ilaah uu doonayo, waayo waxa ay keenaysaa xanuun iyo ceeb. markaa butros ayaa waxa uu ku yidhi, maya, taasi kuguma dhici doonto sayidow. ciise ayaa isagii ku soo jeestay oo ku yidhi, gadaal iga mar shayddaanyahow, waad i xumaynaysaaye, waayo waxyaalaha ilaah kama fikirtid, waxaadse ka fikirtaa waxyaalaha dadka. xirtu waxa ay doonayeen in boqorka masiixa ah uu burburiyo xukuumaddii roomanka ee dalka qabsatay oo uu yeruusaalem ka taago boqortooyo. intii ay yeruusaalem ku sii socdeen ayaa xirtu waxay bilaabeen inay ku doodaan cidda u noqonaysa ku-xigeenada ciise masiix. sidaas darteed ciise waxa uu u sheegay xertiisa uu ku yidhi, ku alla kii doonaya inuu dhexdiinna u weynaado, mididinkiinna waa inuu ahaado. sida wiilka aadanaha uusan ugu iman in loo adeego, laakiin uu adeego, iyo inuu naftiisa dad badan furashadooda u bixiyo.
markii ugu horraysay ee ciise masiix dunida yimid uma uusan imaanin in uu ka adkaado boqortooyooyinka iyo in uu xukumo carshiyada dunida. wuxuu u yimi in uu ka guulaysto shayddaanka iyo in uu maareeyo qulubta aadanaha. taasina waa wixii ciise uu dadka u barayey, isaga oo leh boqortooyada ilaah waa idinku dhex jirtaa. laakiin intii boqorka masiixa aanu dembiyadooda waxba ka qabanin ayaa waxay ahayd in qaantii dembiyada ee dadku ay ku rarnaayeen la wada bixiyo, oo dhimashadii ama geeridii ku timid ballaaginimadii ilaah lagula hor yimid laga adkaado. taasi waxay ahayd ergadiisa. wax waliba waxa ay ku socdeen haddaba sidii loogu talagalay. markii sayidku uu ku soo dhowaaday yeruusaalem ayaa qaar ka mid ahaa xertiisa waxa uu u diray howl. waxaana uu ku yidhi, tuulada idinka soo horjeeda taga oo goortaad gashaan aad ka helaysaan qayl xidhan oo aan ninna weligii fuulin, soo fura oo keena. haddii laydin weyddiiyo oo laydinku yidhaahdo maxaad u furaysaan, waxaad ku tidhahdaan sayidkaa u baahan. markaasay kuwii la diray tageen oo heleen sidii lagu yidhi. kolkay qolka furayeen, kuwii lahaa baa ku yidhi, maxaad qaylkaa u furaysaan? waxa ay ku yidhaahdeen sayidkaa u baahan. markaasay ciise u keeneen oo dharkoodii bay qaylkii dusha ka saareen oo ciise ayay fuusheen, oo intuu sii socday ayay dharkoodii jidka ku gogleen. goortii ay ku soo dhowaadeen halka laga galo buur saytuun ayaa dadkii oo dhan oo xerta ay ku jiraan ay aad u farxeen oo cod weyn ilaah ugu ammaaneen waxyaabihii xoogga badnaa ee ay arkeen, iyaga oo leh waxaa barakadaysan boqorka rabbiga magaciisa ku imanaya. nabadii jannada ha ku jirto, ammaantuna meelaha ugu sarreeya. laakiin farisiintii qaarkood oo dadkii badnaa ku dhex jiray ayaa ku yidhi, macallimow, xertaada canaano. markaasuu u jawaabay oo ku yidhi, waxaan idinku leeyahay kuwani haddii ay aamusaan dhagaxyada ayaa qaylin doonaa. waa boqorrada ka duwan. masiixa boqorka ah caasimadda kuma soo gelin buuq, turumbooyin iyo ciidan xoog badan, oo kuma uusan gelin faras dagaal sida dagaalyahan. wuxuu ku galay oo watay dameer hooseeya darajo ahaan. dameer yar oo aan la tababarin wuu dagaalami lahaa, oo dameerku waxau lahaa astaanta isku tallaabta oo dhabarkiisa iyo garbihiisa ku xardhan. waxaa taa ka muhiimsanaa inuu welibana ahaa xayawaankii soo kaamilayey waxyigii u qoray nebi zakariya 500 sano ka hor. magaalada yeruusaalem ay qayli, baleeg, boqorkaagu wuu kuu imanayaa. isagu waa xaq oo gol buu leeyahay, waana qalbi qabow yahay oo waxa uu fuushan yahay dameer ah qayl dameereed. masiixa boqorka ah muxuu yeruusaalem ugu geli waayey faras xoog leh? waxa uu ugu geli waayey waxay ahayd isagu uma aanu imaanin inuu dadka ka badbaadiyo gumaystihii reer Roma. wuxuu u yimi in uu ka badbaadiyo dadkiisa dembiyadooda. maalmaha soo socda ayaa ciise waxauu dadka wax ku bari doonaa macbudka, halkaasoo uu kaga yaabsaday culimmadii su'aalo waaweyn iyo jawaabo xigmadaysan. hogaamiyayaasha macbudka hadda waxa ay lahaayeen fikir ka duwan kii hore. waxay leeyihiin, dooni mayno ninka inuu boqor ahaado. haddaba waxay ciise ku weerareen su'aalo adag, iyaga oo rajaynaya inay dadka caadiga ah isaga ka hor keenaan. waxa ay haddaba sugayaan fursaddooda, oo waxay u soo direen basaasyo iyagoo daacad iska dhigaya. waxa ay isku taxalluujinayaan in ciise ay ka keenaan hadal si markaa barasaabka dalka reer Roma uu u soo qabtay ciise masiix. markaasay weydiiyeen oo ku yidhaahdeen, macallimow, waxaannu ognahay in aad si hagaagsan wax u tidhaahdo oo aad dadka wax u barto oo aanad ninna u eexan, laakiin aad jidka ilaah dadka runta ku barto. ma xalaal baa inaannu cashuur siinno kaysar ama inaanaan siin? ciise muxuu ugu jawaabay, hadduu odhan lahaa ha
oo siiya canshuur boqorka. dadka yuhuudda waxay ku eedayn lahaayeen inuu yahay khaa'in waddan. hadduu odhan lahaa maya canshuur ha bixinina, guddoomiyaha roomanka ayaa waxaas maqli lahaa oo isaga waa la xiri lahaa oo waxaa lagu eedayn lahaa qarandumis. laakiin khiyaanadooda wuu gartay oo waxa uu ku yidhi, dinaari tusa, yaa leh masawirkan iyo qorniinkan ku yaalla? waxa ay ku yidhaahdeen, kaysar baa leh. markaasuu ku yidhi, haddaba kaysar siiya waxa kaysar leeyahay, ilaahna siiya wixii ilaah leeyahay. hadalkiisa way ku qaban kari waayeen dadka hortiisa, wayna ka yaabeen jawaabihiisa oo way iska aamuseen. marar badan ayaa kooxo ka mid ahaa culimmadii diinta ay daban u qolaan ciise, laakiin mar kasta waxa uu ugu jawaabayay iyaga si xigmadaysan. oo maalmahaas dabadeed cidna kuma aysan dhicin inay mar dambe ciise masiix wax weydiiyaan. kuwii haddaba la ceebeeyey ayaa waxa ay u tageen oo ay shirqool la soo maleegeen wadaadkii sare si ciise masiix loo qabto oo loo dilo. war maxay taasu tahay arrin in dhal'aan lagu samaynayo? wadaaddadan waxay mas-uul ka ahaayeen in ay alabaryo ku bixiyaan macbudka. ma ayan garanaynin ninka ay doonayeen inay dilaan inuu ahaa kii lagu muujiyey ama ay tilmaamayeen allabaryadaas. waxaa iminka soo dhowaaday in qorshihii qarsoonaa ee ilaah la fuliyo. waxay ahayd habeenkii ciidda sannadlaha ah ee kormaridda. maalintii ku xigtay waxay ahayd in kumanaan wan la gowraco. inkastoo ciise uu ogaaday in isagana la dili doono maalintaa ku xigtay, waxa uu xertiisa la qaatay cashadii ugu dambaysay. markii ay cashaynayeen ayaa waxa uu soo qaatay kibis, wuuna barakadeeyey oo jejabiyey, waxaana uu siiyey iyagii inay cunaan. oo waxay wada cabeen sharaabkii. wuxuu u sheegay in kibista la burburiyey ay u qaataan jidhkiisa koldhow la nabarrayn doono. cabitaankana wuxuu u sheegay inay u qaataan dhiiggiisa koldhow iyaga dartood loo daadin doono oo noqon doonaa axdi cusub oo khuseeya dembiyada. saqdii dhexe ayaa ciise masiix waxa uu keenay xertiisii beertii la ohan jiray getsamaane. halkan oo ah beerta getsamaane ayaa waxa uu ku ogaanayaa argagaxa soo fool leh, waxaana uu aad iyo aad u baryey aabbihiisa jannada ku jira. markaasaa sida iyaga oo wax loo soo sheegay culimmadii waxa ay la yimaadeen rag iyo dumar aad u fara badan oo hubaysan. ciise ayaa ku yidhi, ma waxaad iila soo baxdeen seefo iyo ulo inaad i qabataan sidaan tuugahay? maalin waliba macbudka ayaan fadhiyi jiray oo weligiinna ima aydan qabsan. laakiin waxaasoo dhan ayaa noqday in qorniinka nebiyadu rumoobo. dabadeetana xertii oo dhan baa isaga yaacay oo giddigoodba way wada carareen. ciise wuxuu oggolaaday inay isaga xidhaan oo la geeyo guriga wadaadka sare. halkaa ayaa taliyayaasha yuhuuddu ay isu urursadeen. meeshaas niman badan ayaa waxa ay been uga sheegeen ciise. markaasaa wadaadkii sare dhexda istaagay oo ciise weydiiyey isaga oo leh, miyaanad waxba ka jawaabaynin? kuwan waxay kugu marag furayaan waa maxay? isaguse wuu iska aamusay oo waxba uma jawaabin. mar kale wadaadka sare ayaa weydiiyey oo ku yidhi, miyaa tahay masiixa oo ah wiilka kan la ammaano? ciise baa yidhi, waan ahay. oo waxaad arki doontaan wiilka aadanaha oo fadhiya midigta xoogga ilaah oo ku imanaya daruuraha cirka. markaasaa wadaadkii sare dharkiisii jeexjeexay oo yidhi, maxaynu markhaatiyaal weli ugu baahan nahay? waad maqashaan caytanka, maxay idinla tahay? kulligood waxay xukumeen inuu dhimasho istaahilo. qaar waxay bilaabeen inay candhuuf ku tufaan oo wejigiisa daboolaan oo garaacaan. waxayna ku yidhaahdeen, wax sheeg. askartiina way dharbaxeen. maxkamadda yuhuudda waxa ay amreen xukun dil ah, laakiin ma lahan awoodda ay ku fulinayaan taas. maxkamadda roomanka keliya ayaa taa samayn kartay.
waxay ahayd subax hore markii madaxdii diinta iyo dadkii badnaa ay ciise masiix ka soo wadeen gurigii wadaadka sare. markay sii mariyeen waddooyinkii yeruusaalem ee cidhiiriga ahaa ayaa waxay keeneen gurigii bontos bilatos oo ahaa hogaamiyii reer rooma. madaxdii diintuna waxa ay doonayeen in bilatos uu ciise ku xukumo dil. kolkaasay bilaabeen inay hortiisa ku ashtakeeyaan iyaga oo leh, waxaannu aragnay ninkan oo quruntayada rogaya oo diidaya in kaysar cashuur la siiyo, oo odhanaya in qudhiisu yahay masiix oo boqora. kadib markii uu waraystay ciise ayaa bilatos waxa uu wadaadadii sare iyo dadkii ku yidhi, anigu ninkan eed kuma aanan helin. way u jawaabeen oo ku yidhaahdeen, ninkan haddaannu xumaanfalo ahayn kuma aynan soo gacangelinin. bilatos haddaba guriga taliyaha ayaa uu mar kale galay oo ciise u yeeray oo waxauu ku yidhi, adiguma waxaa tahay boqorka yuhuudda, maxaad samaysay? ciise ayaa ugu jawaabay, boqortooyadaydu tan dunida ma aha. haddii boqortooyadaydu tan dunida ay tahay, midiidyadaydu waa ay ii dareeri lahaayeen inaan yuhuudda la ii gacangelin, balse boqortooyadaydu tan dunida ma aha. sidaas daraaddeed bilatos ayaa ku yidhi, haddaba ma boqor baa tahay? ciise ayaa ugu jawaabay, waad tidhaahdaa inaan boqor ahay. taas ayaanu dhashay oo taas ayaan dunida u imid, inaan marag u furo runta. mar kasta kan runta ah ugu maqlaa codkayga. bilatos ayaa ku yidhi, waa maxay runta? oo markuu sidaa ku yidhi mar kale ayaa yuhuudda u baxay oo ku yidhi, eedna isagii kuma aanan helin. laakiin dadkii badnaa way sii qayliyeen iyaga oo leh, isku tallaabta ku qodob, isku tallaabta ku qodob. markaasuu waxa uu kolkii saddexaad ku yidhi, waayo waa maxay sharka kanuu sameeyey? kuma aan helin sabab lagu dilo. taas aawadeed waan edbinayaa oo sii daynayaa. laakiinse cod weyn ayaa ay ku adkaysteen iyaga oo weydiisanaya isku tallaabta ha lagu qodbo, oo waxaa xoog batay codkoodii. bilatos wuxuu ogaa in ciise aanu dembi lahayn, laakiinse isagoo ka cabsanaya madaxdii diinta iyo dadkii badnaa ayaa waxa uu ciise ku xukumay dil. bilatos waxa uu ku xukumay ciise ciqaab aad u daran oo waafaqsan sharciga roomanka, oo isku tallaabo ayaa lagu qodbayaa. kuwa la xukumay waxaa lagu garaacayaa karbaash dhexda biro ku leh. 700 oo sannadood ka hor rabbiga ayaa amray nebi ishaaciyaa inuu qoro, kuwii i karbaashay ayaan dhabarkaygii u duway, oo kuwii timaha iga rifay dhabannadeedaan u duway. wejigaygiina ceeb iyo candhuuftoona kama aanan qarin. injiilku waxa uu inoo sheegayaa wixii dhacay markii sayid ciise masiix la karbaashay dabadeed. markaasaa taliyaha askartiisii waxay ciise geeyeen saldhiggii ciidamada, oo waxaa ku soo xumay askartii oo dhan. dharkiisii ayaa ay ka qaadeen oo waxa ay u geliyeen khamiis gaduudan. taaj ay qodxaan ka sameeyeen ayay madaxa u saareen, oo cawsduurna gacantiisii midigtahayd ayay u geliyeen. oo intay hortiisa jilbajoogsadeen oo ku majaajuloodeen ayaa waxay ku yidhaahdeen, nabad boqorka yuhuuddow. wayna ku candhufeen, markaasay cawsduurkii ka qaadeenoo madaxa kaga dhufteen. askartii ma ayan garanaynin macnaha taajka qodxanta leh ee ay ciise masiix madaxa ugu ciriirinayaan. qodxaha waxa ay u taagnaayeen habaarkii ku yimi dunida dembigii aadan dartii. boqorka ammaanta leh oo quduuska waxa uu u yimi inuu naga qaado habaarka dembiga. oo goortay ku majaajiloodeen dabadeed ayaa waxa ay ka bixiyeen khamiiskiisii waxaanay u geliyeen dharkiisii hore. markaasay wadeenoo u kaxeeyeen in isku tallaabta lagu qodbo. 2 dembiile oo la xukumay ayaa lala bixiyey ciise, mid kastana waxaa loo saariyey isku tallaabtiisa inuu geeyo ilaa meeshii lagu dili lahaa. haddaba buuqii iyo rabshadii ayaa askartii roomanku waxa ay ku qasbeen nin ka mid ahaa kuwii ka yimi waqooyiga afrika inuu qaado isku tallaabtii ciise. kadibna way sii socdeenoo waxay sii mareen waddooyinkii ciriiriga ahaa ee yeruusaalem, derbiyada magaalada bannaankeeda ilaa buurta la yidhaahdo golgota, oo ka mid ah qaybta waqooyi ee buurta loo yaqaano mooriyaha. meeshani waa halkii 1900 oo sannadood ka hor nebi ibraahim uu ka yidhi, ilaah qudhiisaa keeni doono wankii allabariga laguba loo bixin lahaa wiilkaygiiyow.
waxay ahayd wakhtigii uu wankaas dhiman lahaa. haddaba in qofka laga soo ladlaadiyo isku tallaab ayaa waxay ahayd nidaam aad u foolxun oo ay lahaayeen reer Roma. waxaana ceebtaas iyo xanuunka u sii dheerayd in askartii reer Roma ay ka qaadaan dharka qofka la dilayo, dabadeetana ay saaraan isku tallaabta oo misna masaamiir gacmaha iyo lugaha kaga kaawiyaan. markay yimaadeen haddaba meesha la yidhaahdo dhakada, halkaasay isku tallaabta ku qodbeen isaga iyo xumaanfalayaashii, mid midigta midka kalena bidixda. markaasaa ciise waxa uu ku yidhi, aabbow iyaga cafi, waayo garan maayaan waxa ay samaynayaan. markaasaa ay dharkiisii qaybsadeenoo wayna saami riteen. dadkuna way taagnaayeen iyaga oo daawanaya, taliyayaashuna way qoslayeen iyaga oo leh, kuwo kale ayuu badbaadiyey, kanu ha isbadbaadiyo hadduu yahay masiixa ilaah kan uu doortay. haddii ilaah badbaadin lahaa ciise masiix, innagu ma aynaan badbaadinin. dadkii badnaa wax fikrada kama ayna haysanin in ay fulinayaan wixii rabbigu uu ka yidhi nebi daa'uud markaasoo u lahaa, oo waxay iga mudeen gacmaha iyo cagaha, oo iyagu way ifiiriyaan oo igu dhaygagaan. dharkaygii bay qaybsadaan oo maradaydiina saami bay u riteen, oo kuwa ii arkaa oo dhammuna way ugu qoslaan, bushamahay yuubaan oo madaxay lulaan. iyagu oo leh rabbigu ha samato bixiyo, bal isagu waa kan ku faraxsane, hadda ha samato bixiyo. qorshihii badbaadinta ee ilaah ayaa iminka tallaabo loo dhaqangelinayaa. isla buurtii halkii nebi ibraahim ku yidhi, ilaah qudhiisaa keeni doono wankii, ayaa rabbigu iminka uu keenayaa wankii. ilaah wuxuu keenay wankiisa oo ahaa ciise masiix. miyaad haddaba xusuusataa sidii loo gowracay orgigii yaraa oo allabari ahaan loogu bixiyey madax furashada wiilkii ibraahim? iminkana waxaa isla buurtaasi lagu gowracay midaan dembi lahayn oo ah wiilkii ilaah, si markaa uu u soo madax furto bani aadmigii la xukumay. ilaa waxa uu badbaadiyey ibraahim, laakiin isagu xitaa wiilkiisa inagama uusan lax jeclaysan, laakiinse innaga dhammaanteen ayaa uu u bixiyey. ilaah intuu dunida jacayl u qabay haddaba ayaa uu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay, in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin, laakiinse uu lahaado nolosha weligeeda. waxaad ogsoon tihiin in dabeicadihiinnii bilaashka ahaa oo aad awowayaashiin ka dhaxasheen laydinkaga soo furan waxyaalahan baaba'aya oo ah sida lacagta iyo dahabka. laakiin waxaa laydinku soo furtay dhiiggii qaaliga ahaa oo masiixa, oo ah sidii wan yar oo aan wax ceeb ah iyo intoona lahayn. sidaas ayaad haddaba xagga ilaah qiimi uga leedahay. si uu u fuliyo haddaba qorshaha ilaah ee badbaadinta, ayaa ciise masiix waxa uu dareemay ceebta uu keenayo dembiga. isaga ayaa habaarkii uu ku dhacay intii uu innaga nagu dhici lahaa. waxa uu qaatay haddaba ciqaabtii annaga aynu u qalanay. maalintii uu aadan sharcigii ilaah jebiyey, ayaa ilaah waxa uu caddeeyey inuu maalin masiixa uu burburin doono abeesada. ilaah waxa uu u sheegay haddaba shayddaanka, madaxaaguu burburin doonaa, adiguna ciribtiisaaad burburin doontaa. haddaba waxyigan qadiimkaa ee qarsoodiga ahaa ee khuseeyey in shayddaanka uu burburin doono ciribtiisa, ayaa waxa uu sii sheegayaa ceebta iyo xanuunka wankii ilaah ka qabsan doonta isku tallaabta, waayo isaga waxaa loo nabarreeyey xadgudubyadeenna. kuwaasi ciise isku tallaabta ku qudbayey ma ogeyn ilaah qorshihiisa qarsoodiga ah. tan madaxda wakhtigan midkoodna aanu garanaynin, waayo hadday garan lahaayeen isku tallaabta kuma ay qodbeen rabbiga ammaanta. waayo hadalka ku saabsan isku tallaabtu waa u nacasnimo kuwa lumaya, laakiin waa u xoogga ilaah kuweena badbaadaya. isku tallaabta ciise masiix waxa ay dhexda kaga jirtay laba qof oo dembiilayaal ah.
xumaanfalayaashii daldalnaa midkood ayaa caayay isaga oo leh, miyaanad ahayn masiixa, innaga iyo qudhaadaba badbaadi. laakiinse kii kale ayaa jawaabay oo canaantay isagoo leh, miyaanad xataa ilaah ka baqin, waayo isku xukun baad tihiin, waayo innaga waa inoo xaq, maxaa yeelay waxaynu helnay abaalkii wixii aynu falnay. ninkanuse wax aan jid ahayn ma uu falin. markaasuu ku yidhi, ciisow i xusuuso goortaad boqortooyadaada ku timaaddo. oo ciise ninkii buu u soo jeestay oo waxa uu ku yidhi, runtii waxaan kugu leeyahay, maanta firdowska ayaad igula jiri doontaa. xumaanfalihii koowaad waxa uu doonayay keliya in laga badbaadiyo xanuunka jirkiisa, oo lama ahayn in uu u baahnaa in badbaadihu uu dhinto beddelkiisa. dembiilihii labaad xitaa wuu caayay ciise, laakiin iminka maadaama uu dhimasho qarka u saaran yahay ayaa uu beddelay fikirkiisa, waxaana uu iminka doonayaa in sayidku uu ka badbaadiyo boqortooyada shayddaanka. waxa uu doonaya markaa inuu ka mid noqdo waddaniyiinta boqortooyada haddii ciise raalli uu ka noqdo. ciise ayaa ku jawaabay isagoo eegaya bidixdiisa oo waxa uu ku yidhi, maanta waxaad igula jiri doontaa firdowska. fiidkiiba labadii xumaanfalayaal way dhinteen. mid waxa uu aaday cadaabta, kii kalena waxa uu aaday jannada. maxaa keenay haddaba farqiga? midkood baa wuxuu ku kalsoonaaday sayid ciise masiix, kii kalena waa diiday. waa duhur. ciise waxa uu durbaba ku qodbanaa isku tallaabta muddo 3 saacadooda. daruuro madow ayaa soo degay oo dhulkii oo dhan mugdi ka dhigay. maalintu waxay noqotay sida habeen oo kale, oo dadkii isku soo baxay ayaa kala cararay, oo waxaa isla markiiba bilowday aamusnaan. saddex saacadood kadib ciise ayaa cod weyn ku jawaabay, ilaahow ilaahow maxaad ii dayrisay? haddaba halka allabariga ee isku tallaabta ayaa waxa uu dareemay naxdinta ay leedahay marka la kala dhaqaaqo ilaaha samada. isla saacadda gudcurka ahayd ayaa ilaah waxa uu qariyey indhihii bini'aadmiga, waxaana uu ciqaabtii dembiyada dadka ku qaaday wiilkiisa ciise masiix. ciise waxa uu noqday allabarigii ugu dembeeyey ee dembiga, oo waxa uu qaaday dembiyadii hore, kuwa haatan iyo weliba kuwa mustaqbalka ah. ilaaha samada wuu ina eegayaa, oo waxaa qoran, indhihiisu way ka sii daahirsan yihiin inay xumaan fiiriyaan. muddo 3 saacadooda ayaa caradii rabbigu waxa ay saarnayd qurbaanka allabariga ee isku tallaabta. isla sida wanka allabariga loo saaro ayaa wankii ilaah waxaa iminka isagana la saaray isku tallaabta u dhaxaysa samada iyo dhulka iyo ilaah iyo dadka. masiixa nool ayaa innaga daraaddeen cadaab u galay si innaga aynaan cadaab u gelin. arrinka isaga ana si guul leh ayaay ugu dhammaatay ciise masiix oo shaqadii uu soo dhammeeyey, isagoo og haddaba in uu garbaha u dhigtay edbintii la edbin lahaa dembiilayaasha uu welibana fuliyey waxyaalihii lagu sheegay axdigii hore, ayaa ciise masiix waxa uu yidhi, way dhammaatay. markaasuu madaxa fuurashay oo ruuxii bixiyey, oo baleeg daahii macbudka ayaa 2 inood u kala dilaacay, dhulkiina waa gariiray, dhagaxyadiina way dildilaaceen. qarniyaal badan ayaa wuuna la dilayey, waxaana lagu gubayey meesha allabariga macbudka. markii ciise dhintay ilaah waxa uu kala dilaaciyey daahii karinayay qolka khaaska ah oo ahaa meeshii dhiigga lagu firdhin jiray sannad kasta si loo daboolo dembiga. markuu kala dilaaciyey haddaba daaha, ilaah waxa uu ogeysiinayaa dadka inay soo dhammaatay howshii. deyntii dembiga waa la bixiyey dhammaanteed. wankii ayaa waxa uu u daadiyey dhiiggiisii quduuska ahaa dembiga dunida darteed. hadda kadib
ma uu aqbali doono dhiigga xayawaanka dembiyada dartood. wiilkaygii ayaa soo gebagabeeyey howsha allabariga, waayo mid walba oo isaga rumaysta waxaa u furmaya albaabadii samada. toddoba boqol oo sano ka hor nebi ishaaciya ayaa qoray, waxaa isaga loo dhaawacay xadgudubyadeenna, waxaana loo nabarreeyey xumaatooyinkeenna, edbintii nabaaddiinnadeennana dushiisay ku dhacday. daldallaaciisiina waynu ku bogsannay. dhammaanteen sidii ido baynu u hallawnay, midkeen waliba jidkiisu u leexday, oo rabbigu waxa uu isaga dul saaray xumaanteenna oo dhan. way soo dhammaatay. ciisihii reer naasareed wuu dhintay. si markaa uu u hubsado inuu dhintay, ayaa askari ka mida kuwii meesha taagnaa waxa uu ciise masiix dhinaca ka geliyey waran. dhiig iyo biyo ayaana ka soo booday. haddaba rajadii xirtu ay qabeen ayaa soo dhammaatay, oo waxaa iyaga ay la ahayd in ciise uu burburin doono xukuumadda reer Rooma, boqortooyadiisana uu ka taagi doono dhulka. laakiin ma ayan fahmin xirtiisu ballankii ahaa in uu maalintii saddexaad soo saro. haddaba dadka isku tallaabada korkeeda lagu dilo ayaa waxaa lagu tuuri jiray meel magaalada ka baxsan, oo waxaa lagu aasi jiray xabaalo wadareedyo. laakiin ciise masiix sidaa jirkiisa looma gelin. 700 oo sano ka hor ayaa nebi ishaaciya waxa uu qoray, xabaashiisiina waxaa lagu daray kuwii sharka lahaa, dhimashadiisiina mid taajir ahaa. ilaa waxa uu u qorsheeyey wiilkiisa in lagu aaso xabaal xushmad leh. goor ay ahayd casir ayaa waxaa yimid ninkii reer Armitaaye oo hodanka ahaa oo la oran jiray Yuusuf, oo isaguna ciise xertiisa ahaa. kaasi wuxuu u tegey Bilaatos oo ka baryay ciise meydkiisii. markaasaa Bilaatos amray in la dhiibo. ciise dhimashadiisii ka hor ayaa yuusufkii reer Armitaaye iyo saaxiibkii Nikodemas waxa ay noqdeen xerta qarsoodiga ah ee ciise masiix. waxa ay ka cabsanayeen haddaba madaxdii diinta, laakiin goortii ay arkeen ciise oo ku silcaya isku tallaabta ayaa cabsadii ka dhammaatay. dabadeedna waxay qaateen jirkii ciise, oo intay dhaqeen ayay waxay geliyeen maro nadiif ah. jirkiisiina waxay mariyeen 35 kiilo oo malmal iyo foox ah, kuwaasoo raggii xigmadda lahaa ay u keeneen ciise markii uu dhallaanka ahaa. kadib waxa ay dhigeen haddaba meydkii xabaashii yuusuf ee cusbayd, oo dabadeetna waxay saareen xabaasha afkeedii dhagaxa aad u weyn, waana ay ka soo tageen. waxaa taas markaa ay noqotay aas qof boqora leeyahay. subaxii xigay ayaa madaxdii diinta waxa ay u yimaadeen Bilaatos, oo waxa ay ku yidhaahdeen, sayidoo waxaanu xusuusannay in khaa'inkaasi uu yidhi intuu weli noolaa 3 maalmood dabadeed waan soo sara kacayaa. haddaba amar in xabaashii aad loo dhowro ilaa maalintii saddexaad, inaan xertiisu iman oo xadin, oo aanay dadka ku odhan kuwii dhintay wuu ka soo sara kacay, oo aanay khiyaanadii dambe ka sii xumaan intii hore. Bilaatos waxa uu yidhi, waardiyaal baad leedihiin, taga oo adkeeya in alla intaad adkeyn kartaan. markaasay tageen iyaga iyo waardiyayaashii oo xabaashay soo adkeeyeen, dhagaxiina way shaabadeeyeen. haddaba maxaa ku dhacay jirkii ciise masiix ee qabriga ku jiray? waxba kuma dhicin. ilaa iyo maalintii aadan dambaabay ayaa dhimashadu waxa ay gacan cadowtinimo ku haysatay dadka aadamiga ah. haddii ciise dambaabi lahaa ayaa dhimashadu waxa ay jirkiisa ka dhigi lahayd inuu kala daato, dabadeetna qurmo oo uu noqdo dhoobo. laakiin 1000 sannadood ka hor ayaa nebi daa'uud waxa uu qoray, kaaga quduuska ahna uma oggolaan doontid inuu qurun arko. dhimashada iyo xabaashuna kama adkaan karin kii aan weligii dambaabin. maalintii saddexaad kadib markii ciise la dilay oo la xabaalay ayaa axaddii waxaa yimid dhowr dumar ah si markaa ay ciise masiix u darajeeyaan. isla markiiba waxaa bilowday dhulgariir.
oo malag ayaa samada ka yimid. dabadeetana dhagaxii ayaa uu garaangeliyey oo haddana dusha kaga fadhiistay. askartii meeshii joogay way suuxeen. dabadeetana malaa'igta waxa ay ku tidhi hablihii, ha cabsanina, waan ogahay in aad daydayaysaan ciise kii la qodbay. halkan ma joogo, waayo waa uu sare kacay sidii uu yidhi. balkaalaya oo arka meeshii rabbigu jiifay. dhaqso u taga oo waxaad xertiisa ku tidhaahdaan kuwii dhintay ayaa uu ka sare kacay. dumarkiina si dhaqsiya leh ayay kaga tageen xabaashii. dhaqsaba waxa ay xabaashii kala tageen baqdin iyo farxad weyn, oo way ordeen inay xerta u warramaan. kolkaasaa ciise ka hor yimi oo ku yidhi, nabad. markaasay u dhowaadeenoo intay cagihiisa qabteen ayaa ay ku hor dhaceen. isla markiiba askartii waxa ay yimaadeen magaalada oo waxay u sheegeen madaxdii diinta wixii dhacay. sidaas daraaddeed madaxdii diinta waxa ay ku laaluusheen iyaga lacag badan. waxaanay ku yidhaahdeen askartii, waxaad tidhaahdaan xertiisii baa habeennimadii timid oo xadday isaga intii aannu horoodnay. laakiin beentoodu ma dabooli karin runta qabrigu ugu marnaa. oo markii ciise dhintay waxa uu bixiyey ciqaabtii dembiyadeenna. aaskiisii ayaa ciise hoos u aaday dhimashada iyo qurunka. sare kiciddiisiina waxa uu kaga guulaystay dhimashada. wuxuuna iminka leeyahay, ha cabsanina, anigu waxaan ahay kan ugu horreeya iyo kan ugu dambeeya, iyo kii noolaa oo dhintay. oo baleeg waan noolahay tan iyo weligeyba, oo waxaan haystaa furayaasha dhimashada iyo haadees. kuwa haddaba rumaysta akhbaarka wanaagsan ayaa dhimashadu waxa ay u noqonaysaa oo keliya irid loogu tago boqorka, kaasoo yidhi waa noolahay. taas aawadood idinkuna waad noolaan doontaan. maalintii sare kiciddiisa ciise waxa uu isku muujiyey dad badan oo xertiisa ka mid ah. markii ugu horraysay naagaha ama dumarkii, kadibna butros, kadibna labadii musaafirka ahaa. laba ka mida iyaga waxay maalintaas qudheeda ku socdeen tuulo la yidhaahdo emowas, tan yeruusaalem u jirtay 60 isteedyan. oo waxa ay noqotay in ciise qudhiisa uu soo dhowaaday oo la socday, laakiin waa laga indhasaabay si aanay u garan. markaasuu ku yidhi, maxay yihiin hadalladan aad isku haysaan intaad socotaan? wayna istaageen iyagoo fool qulubsan. midkood kale obas la odhan jiray ayaa u jawaabay oo ku yidhi, ma adigoo keliya oo yeruusaalem deggan ayaan ogayn wixii ayaamahan meeshan ka dhacay? wuxuu ku yidhi, wax maxay ah? raggii musaafirka ahaa waxay u sheegeen sida ay u rajaynayeen in ciisihii reer naasarood u noqon doono masiixa ka guulaysan doona cadaawayaashooda, laakiin isaga waxaa lagu qodbay isku tallaabta. haddana xabaashii waxay ahayd eber, ama waxay ahayd mid maran, oo way adag tahay in la fahmo. markaasuu ku yidhi, nacasyayahow, oo qalbigoodu ka raagay inuu rumaysto wixii nebiyada oo dhammu ay ka hadleen, masiixa miyaanay waajib ku ahayn inuu waxaasoo dhan ku silco oo uu ammaantiisa galo? markaasuu ka bilaabay muuse iyo nebiyada oo dhan. qorniinka oo dhanna ayaa uu ugu micneeyey wixii isaga qudhiisa ku saabsanaa.
goortay ku soo dhowaadeen tuuladii ay ku socdeen isaguna waxa uu iska dhigay mid sii fogaanaya, laakiin way oggolaysiiyeen iyaga oo leh nala joog, waayo maqhribku waa dhow yahay, maalintana durbo way dhammaatay. markaasuu la galay inuu la joogo. waxaa dhacay kolkuu cunto ula fadhiistay, intuu kibista qaaday uu barakadeeyey, oo intuu kala jejebiyey ayaa uu siiyey. markaasaa indhahoodii furmeen oo isagii bay garteen, wuuna ka libdhay. markaasay isku yidhaahdeen, miyaanu qalbigoonnu gubanin intuu jidka inagula hadlayey iyo intuu qorniinka inuu fasirayey? way soo kaceen, waxaana ay u carareen yeruusaalem si ay xirta ugu sheegaan in sayid ciise masiix nool yahay. waa badbaadihii lagu ballanqaaday qorniinka, waa wanka oo lagu sawiray allabaryaasha, waana rabbiga sayidka ah. ugu dambayn, farriintii nebiyada ayaa macno samaysay, waana macno kaamila. waxay ahayd haddaba axad fiidkii, xertuna way isla joogeen iyaga oo albaabku uu xihan yahay. si kadiisa ayaa ciise waxa uu u soo dhex galay qolkii oo waxa uu ku yidhi, nabada hadala jirto. oo markuu waxaas yidhi, wuxuu iyagii tusay gacmihiisii iyo dhinacyadiisii. sidaas daraaddeed xertii way farxeen markay sayidkoodii arkeen. laakiin toomas, mid 12 ka mid ah, lama joogin markuu ciise yimid. haddaba xertii kale ayaa ku tiri, waxaannu aragnay sayidka. laakiin waxa uu ku yidhi, haddaanan gacmihiisa ku arkin calaamaddii musmaaridda, oo aanan fartayda gelin nabarkii musmaarada, oo aanan gacantayda gelin dhinaciisa, rumaysanba maayo. oo 8 maalmood dabadood xertiisii gudaha ayay mar kale wada joogeen, oo toomasna waa la joogay. markaasaa ciise yimid, albaabadiiyo xidhan, oo intuu isdhex taagay ayaa uu ku yidhi, nabad ha idinla jirto. markaasuu toomas ku yidhi, fartaada keen oo arag gacmahayga, oo gacantaadana keen oo geli dhinacayga, oo ha rumaysad la'aan, laakiin rumayso. toomas ayaa u jawaabay oo ku yidhi, rabbigay iyo ilaahayow. markaasaa ciise ku yidhi, waad i aragtay, taas aawadeed ayaad rumaysatay. waxaa barakadaysan kuwa aanay arag ee rumaystay. inta lagu jiro 40 maalmood ayaa sayidku mar waliba degdeg ugu muuqan doonaa iyaga ilaa uu marka dambe ka wada libro. jidhkii sare kacay ee ciise ayaa waxuu dhex mari karaa derbiyada, xawligiisuna waa mid aad u sarreeya. maadaama ciise masiix iminka uu yeeshay jir ammaanan, ayaannu noqon doonin oo keliya isaga kan jidhkaa lahaanaya. oo sidaynu ugu ekaannay kii camuudda laga sameeyey, ayaannu ugu ekaan doonnaa kii ka yimid samada. dhimashadu nin bay ku timid, saas aawadeed sara kicidda kuwii dhintayna nin bay ku timid. siday dhammaan aadan ugu wada dhintaan, sidaas oo kalea dhammaan masiixa loogu wada noolaan doonaa. haddaba miyaad fahamsan tahay inaad tahay dembile aan caawimaad haysan, oo weliba aan lahayn waddo uu ku heli karo xaqnimo uu ugu noolaado boqortooyada ilaah? miyaad haddaba rumaysan tahay in sayid ciise masiix uu galay booskaaga, isagoo dhimashadiina adiga dartaa ka adkaaday? haddii markaas sidaasi aad rumaysan tahay, ayaan mar dambe ilaah kaa dhex arki doonin aadan, laakiin waxaa lagaa dhex arki doonaa haatan dabadeed xaqnimada masiixa. maalin ayaad adiguna waxaad heli doontaa isla jidhkii beddelmay ee ciise, laakiin aan lahayn nabarradii musmaarada. awoodda shayddaanka ee aadan ka guulaysatay ayaa uu ciise soo cestay. amarkiisa oo dhan, shayddaanka iyo jinniyada xunxun, dabaylaha, cudurrada iyo gaajada, dembiga iyo dhimashada ayaa uu ka adkaaday. ciise waxa uu muujiyey in wax waliba ay ku jiraan gacantiisa kaamilka. markii madaxdii diinta iyo askartiiba ay isaga qabteen oo silciyeen oo isku tallaabta saareen, isaga ayaa taa u oggolaaday. sababtaa aawadeed ayaa uu ciise xertiisii ugu yidhi, amar oo dhan ayaa waxaa laygu siiyey samada iyo dhulka. sababtaa aawadeed taga oo quruumaha oo dhan xeer ka dhiga, oo ku baabtiisa magaca aabbaha iyo wiilka iyo ruuxa quduuska, oo bara
inay dhowraan wax waliba oo aan idinku amriyey. oo baleeg had iyo goor ayaan idinla joogaa xataa ilaa wakhtigu dhammaado. ciisena waxa uu u sheegay xertiisa, waxaan idin siinayaa qaynuun cusub oo ah, waa inaad isjeclaataan sidaan idin jeclaaday, idinkuna waa inaad isku jeclaataan. sidaasay dadka oo dhammu idinku garan doonaan inaad xertayda tihiin haddaad jacayl isu qabtaan. 40 maalmood sare kiciddiisii kadib ayaa ciise waxa uu isugu keenay xertiisii buur saytuun oo ahayd duleedka Jeruusaalem. xertiisii way rabeen in ay gartaan marka uu soo noqon doono. markaasuu iyaga ku yidhi, dantiinna ma aha inaad ogaataan wakhtiyada iyo xilliyada uu aabbuhu amarkiisa kaga dhigay, laakiinse waxaad heli doontaan xoog markii ruuxa quduuska ahi idinku soo dego, oo markhaatiyaal ayaad iiga noqon doontaan Yeruusaalem iyo Yahuudiya oo dhan iyo Samaariya iyo meesha dunida ugu fog. oo kolkuu waxyaalahaas yidhi dabadeed, iyagoo eegaya ayaa sare loo qaaday isagii. oo daruur baa indhahoodii ka qarisay, oo intuu sii socday iyagu oo samada aad u fiirinaya ayaa waxaa isa soo ag taagay 2 nin oo dhar cadcad qaba. oo waxa ay ku yidhaahdeen, nimankiinnan reer Galileyo, maxaad la taagan tihiin oo aad samada u eegaysaan? ciisahan samada laydinka sare qaaday, sidaad u aragteen isagu oo samada u socdo oo kale ayaa uu u iman doonaa. markaasay Yeruusaalem ku noqdeen. isla markaa ayaa ciise waxaa lagu boqray samada, iyadoo oo la siiyey ammaan iyo darajo sare. bal qiyaas quruxda, midabada, heesaha iyo xamaasadda ay leeyihiin. 100 milyan oo malaa'iga ah ayaa wada heesaya. boqorkuna waxa uu ku soo noqonayaa guriga, laakiin iminka kii hore maaha. kii haddaba laga abuuray aragga dadka ayaa mar waliba waxa uu lahaanayaa isla araggaas. ammaantiisuna waxa ay ku sugnaatay meelaha jannada. sikadiisa ayaa isla markiiba waxaa shanqar bilaabay koox turumbooyin wadata oo cod dheer ku leh, irduhu madaxiinna kor u qaada, oo albaabada daa'imiska ahow kor ha laydiin qaado, oo waxaa soo geli doona boqorka ammaanta. bal waa ayo boqorka ammaanta? waa rabbiga xoog iyo itaal badan, waa rabbiga dagaalka ku xoogga badan. bal waa ayo boqorka ammaanta? waa rabbiga ciidamada, isaga weeye boqorka ammaanta. irdihii ayaa la ballaqay, oo sawaxan baa waxa uu ka yeeray samada sare, waayo waxaa yimid kii adkaaday oo ah wanka, kii dagaalka lagu jareexeeyey ka sii adkaaday, oo ah ciise masiix. isagoo oo dhex maraya kuwii jeclaa ee tirada badnaa ayaa waxa uu ku dhex socday ilaa iyo uu ka soo gaaro carshigii aabbihiis. wuu soo jeesanayaa, waxana uu eegayaa qurunta aadanaha oo la madax furtay, wuuna fadhiisanayaa. ergada waa la fuliyey. kadib waddaniyiinta samada ama kuwa samada jooga waxa ay u heesayaan heestan cusub, boqorka la jecel yahay. adigu waad istaaheshaa, waayo waa lagu gowracay oo waxaad ilaah dhiiggaaga ugu soo iibisay dad ah qabiil kasta iyo af kasta iyo qurun kasta. kadib malaa'iguhu waxa ay ku wareegaysanayaan carshiga, oo waxay caabudayaan ilaah, waxayna odhanayaan, istaahil waxa ah wankii la gowracay inuu helo cizo iyo ammaan iyo mahad. iminka dunida dusheeda aadan farcankiisa inta badan weli waxa ay yihiin maxaabiistii boqortooyada shayddaanka halaagga ah oo dembiga iyo dhimashada horseeda. laakiin
xornimada iminka waa la heli karaa. haddaba dhimashadiisa iyo aaskiisa iyo sare kiciddiisa ayaa ciise masiix ku helay guusha. kuwa rumaysan oo dhan ayaa waxa uu ku leeyahay qalbigiinnu yuusan murgoon, ilaah waad rumaysantihiin, anigana rumaysta. guriga aabbahay waxa uu leeyahay hooyaal badan. oo haddaan tago oo aan meel idiin soo diyaariyo, mar dambe waa soo noqon doonaa oo xaggaygaan idiin qaadan doonaa, in meeshaan joogo idinkuna aad joogtaan. anigu waxaan ahay jidka runta ah iyo nolosha. ninna aabbaha uma yimaado xaggayguu ku yimaado maahee. maalin aan fogeyn ayaa boqorka ammaanta waxa uu ku soo noqon doonaa dunida, iyadoo oo welibana dadku ay ku mashquulsan yihiin diimo iyo shuqullo aan macno lahayn. markii uu yimaado wakhtigan kuma iman doono isaga oo saaran qayl dameereed, oo welibana looma tixi doono taaj laga sameeyey qodxan. boqorka la sare kiciyey ayaa waxaa noo bayaaminaya rasuul yuxanaa, oo waxa uu leeyahay, oo baleeg waxaan arkay samadii oo furantay iyo faras cad iyo kii fuushanaa, waxaa la odhan jiray aamin iyo run, oo isagu xaqnimuu wax ku xukumi doonaa oo uu ku diriraa, oo indhihiisu waxay u ekaayeen ololka dabka, madaxiisana waxaa u saarnaa taajaj badan, magaciisana waxaa la odhan jiray ereyga ilaah. oo ciidamadii samada ku jirayna isagay soo raaceen, iyaga oo fuushan farda cadcad oo qaba dhar wanaagsan oo cadcad oo daahir ah, oo dharkiisa iyo bowdadiisa waxaa ugu qornaa magac, kaas oo ah boqorka boqorrada iyo sayidka sayidyada. markuu boqorku soo noqonayo, cod ayaa ka kor unkudi doona xagga samada. boqortooyada dunidu waxa ay noqotay boqortooyadii rabbigeenna iyo masiixiisa, oo isna boqor buu ahaan doonaa weligiis iyo weligiis. cadowga boqorka waxa ay ku dhalaali doonaan hortiisa, kadibna waxa uu arki doonaa shayddaanka, waxaana uu dunida baaba'san tusi doonaa waxa xukunka xaqahay uu yahay. waxayna noqon doontaa saacadda dunida ugu fiican. oo rabbigu boqor buu ka ahaan doonaa dunida oo dhan, oo maalintaas rabbigu mid buu ahaan doonaa, oo magaciisuna mid buu ahaan doonaa. maalinta qiyaamaha, sayid ciise masiix wuxuu ahaan doonaa xaakinka. carshigiisu waxa uu ahaa olol dab ah, girgirihiisuna waxa ay ahaayeen dab wax gubaya. oo waxaa hortiisa ka soo dareeray oo ka soo baxay durdur dab ah, oo wuxuu u adeegayay kumanaan kun iyo kumanaan kun. hortiisana waxaa taagnaa 10,000 oo min 10,000 ah, oo xukunkiina waa la dhigay, kitaabadiina waa la furay. shayddaanka iyo boqortooyadiisa mugdiga ah waxaa lagu dhex tuuray baddii dabka ahayd. ugu dambayntana abasada madaxeeda waa la burburin doonaa weligeed. waddaniinta boqortooyada iftiinka ayaa ilaah waxa uu u samayn doonaa samo cusub iyo dhul cusub. iyana waxay ahaan doonaan dadkiisa, oo ilaah qudhiisuna waxa uu la jiri doonaa iyaga, oo waxa uu ahaan doonaa ilaahood. oo isna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa, oo dhimashana mar dambe ma jiri doonto, oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuuntoona. oo ugu dambayntana waxa ay noqon doontaa isla sida kuwa
boqorkooda jecel ay yidhaahdaan iminka ee ah boqortooyadaadu ha timaaddo, doonistaada dhulka ha lagu yeelo sida samada loogu yeelo. tani ma ducadaadaba haddaba miyaad cagihiisa ku hoos dhacday boqorka ammaanta? mise kuu yahay boqorkaaga? عظيم يا الله كم أنت عظيم يا الله كم أنت عظيم